رشيد آد بقول سلوين ولا الله يسلمك محمد ولا هذا عاد بعد هم أتصنت ولا سودويته دمان dadweynaha rashido Salebaan jaamac aad baan ugu soo dhaweynayaa barnaamijka marti ku ah kamid ah haldoorkii kubadda cagta barnaamijka caawa wuxuu kaga duwanaan doonaa barnaamijyadii hore inta badan waxaan ku soo marti qaadi jirnay ciyaartoy kubadda cagta oo rag u badnaa maanta waxayna hor fadhida waxa weeye mid kamid ah shakhsiyaadkii taariikhda fiican ku lahayd gobolka saaxil iyo degmada sheekh waxaan jecelahay dhammaanteen in isoo wada dhaweysaan barnaamijkan insha Allah barnaamij wuxuu noqon doonaa wax badan ku qaada dhigi doono rashiid ma labaad aad baan ku soo dhaweynayaa daawadayaashuba walaalo maxamed oo aad baad u mahadsan tahay adiga daawadayaasha qiimaha badan leba waxaan leeyahay soo dhawaada adigana walaal aad baan maxamed oo ku kaaga mahad celinaya sida qiimaha aad igu soo casuntay barnaamijkan aad waxaan jecelahay bal inta imika daawanaysaa inay dhammaantood ay wada sheergareeyaan inta imika daawanaysaa inay sheergareeyaan ka codsanaa barnaamijka si uu barnaamijku inoo sii gaadho Mustafa Maxamed Cilmi sii sheergareeya barnaamijka waxa weeye way suduwihii isaguna mas'uuliyiinta ciyaaraha gobolka saaxil rashido inagoo barnaamij ku soconna waxaan jeclaan lahaa soo dhaweynka bacdi bal inaad dadkii intii ku garanaysa waa ku taqaanaa inta aan ku garanayn inaad isbarto rashido waa tuma halkay ku dhalatay waxbarashadeedii kala duwan xay ku soo qaadatay hadda halkay ku nooshahay maxamed walaal mar labaad waan kaaga mahad celinayaa aad iyo aad waxaan waliba kuugu hambalyeynaya intaanan gelin horta halkii aan ku dhashay iyo waxaas oo dhan TV-gan True Cable iyo barnaamijka sportiska ee xasuus reeb oo aanay qofnaba yani mihnadiisa ama maskaxdiisa ku soo dhacdeen sida adiga walaal aad yani arrinta ugu fikirtay in sooyaalkii taariikheed ee ciyaaraha Somaliland gobolada in aad xasuus ka reebto oo dadkii hore ugu jiray iyo dadkan dambeba mar labaad waad walaal ku mahadsan tahay inaad kala qaado waa barnaamijka waxaad ku soo casin jirtay rag ciyaartooy ahaa oo soo ciyaari jiray laakiin anigu waan ka duwanahay maadaama aan gabadhahay waxaan kaga duwanahay maamul baan ahaa walow aan ciyaari jiray taariikhdeeda aan ku soo dari doono kubadda koleyga iyo kubadda cagta labadaba okay ku soco sii socda maxamed walaalo anigu waxaan ku dhashay degmada sheekh degmada labaad ee gobolka saaxil sheekh baan ku dhashay waxbarashadeedii hoose dhexe waxaan ku qaatay degmada sheekh markii dambena walaal waxaan u wareegay hargeysaan dugsigaygii sare aan ka dhameeyey waxaan dabadeedna galay privateka waxaan ka dhameeyey qaybta computerka iyo qaybta accountiga intaasay ahayd walaalo aad rashiido dabcan de markaan ka sheekeyno kubadda ama taariikhda ciyaartooyga aan ururinayo su'aalaha weydiiyo waxaa ka mid ah qofku marka uu yar yahay buu marxaladda ciyaaraha kusoo dhex jiraa barashida adigu markii dambe in lagu bartay adoo mas'uuliyada ah garsoore ah haddana runtii dee gudoomiyihii ciyaaraha waxaasoo shaqa adoo qabtay inaan xagga dambe ugu tegi doono bal adigu bal markii aad yarayd iyo ciyaaraha balse isku ahaydeen iyo wixii aad ciyaari jirtay iyo ciyaari kala duwanaa aad ciyaartay iyo sidaad ciyaaraha u jeclaatay bal iyadana runtii bal daariga daawadayaasha nooga sheekee waa su'aal wanaagsan maxamedow walaalo horta qofka bini'aadamka sidan anigu qabo waxan way iskaga dhalataa yaraantiisa waxbuu qofku xiiseeya markuu yar yahay marka yaraantaydii markaan iskuulka ku jirnay aan iskuullada dhiganaynay habluhu waxay ciyaari jireen taanashka iyo ciyaaraha hablaha laakiin anigu waxaan xiisayn jiray kubadda cagta marka markaad yar tahay waxba ma ka xishoonaysid gabadh iyo nin waxaa tahay maba kala taqaanid already markay hamigu kugu xidhan yahay marka wala aniga kubadda igu xidhnayd kubadda cagta dabeedna anigu kubadda cagtaan inamada la ciyaari jiray professionalkayga ciyaaruhu waxay ahaayeen inaan ordo iyo inaan kubadda cagta ciyaaro labadaasay ahayd marka kubadda cagta walaal waan soo ciyaaray weliba maxamed waxay nala gaadhay markii hore waxaan ku ciyaari jirnay kubad yaroo dee sharabaadkii baan ku ciyaari jirnay markii dambena inaan ciyaartooygayga ka mid ahaa ayaa aabihii wuxuu u keenay aabihii baa wuxuu ku maqnaa jidda sacuudiga deedna aabihuu nooga dalbay kubad inuu noo keeno marka maxamed wuxuu noo keenay bal amarka ilaahay kubad 5 oo taa caalamka laga ciyaara ah
dabeedna kubaddaasaan ku bilownay waxaanu ciyaari jirnay gelinka dambe ilaa iyo habeenkii xiisaan u hayno kubadda haddii aan naga soo dhacay xitaa dee waayo kaba maanaan aqoonin waxba maanaan sharabaad maanaan waxaanu ku ciyaari jirnay rashiid haddaan kaa dhex galo marka aad ciyaari jirtay waqtigaas ma hablo tiim hablabaad la ciyaari jirtay mise wiilbaad la ciyaari jirtay walaal inamuun baan la ciyaari jiray waa haraankaaga soo sheegayba habluhu maba ciyaari jirinba laakiin anigu waxaan ka ciyaari jiray weliba aan kugu dara maxamedowe nambarka 9 ka ciyaari jiray nambar 9 baad ahayd nambar 9 bay ahayd markan dambe aan da ciyaaraha qolan tababarka u ahaa magacii hore aan situun baad moodaa in lagu soo tuuro R9 buu ahaa magacaygu rashiido R9 rashiido R tal soo qaatay R9 iyo 9 ka ha nambar 9 ka ciyaari jiray birkan ciyaari jiray wayahay rashiido magaca rashiido ma magacaaga saxda ah way yar tahay qof la leeyahay rashiido cabdirashiid waa magaca rashiido ma magacaaga saxda mise magac labaad oo aad leedahay wallahi walaal may waa magacayga saxda ah weeye sababtoo tahay aabahay baa ii bixiyey aabahayna iyo edaday allah yarxamu labadooda way dhinteen allah yarxamu waxay joogeen kuwait bay joogeen ay deganaayeen marka magacan inta badan wuxuu ka yimaadaa markaan sii raacay carabaha iyo weliba Pakistan ayuu ka yimaadaa markii ugu horeysay ee qofka magac la mida magacayga aan arkay Djibouti baan ku arkay aad iyo aad rashiido madaba ciyaaraha yareed marka ciyaari jirtay aad jeclayd ciyaartooyga waxay leeyihiin marka ciyaartooy ka waaweyn oo waqtiga ciyaari jiray oo daawin jirtay ma jireen haday jireen yaa ku ahaa adiga dadka role modelka ku aad jeclayd inaad barsidooda u ciyaarto ama ciyaarahooda aad u jeclayd maadaama kubadda cagta aad jeclayd wallahi walaalo hortay macal asif ma soo gaarin ba ciyaarihii la ciyaarayay ama ciidan role model ka dhigan lahaa ma soo gaarin sax oo de maanta ciidan ku sheegan ku dhado qofkaasan soo lahaa markan dambe aan anigu ciyaari ka fadhiistay laakiin aan de anigu aan maamulaha noqday un baan de qiyaasi karaa laakiin waqtiga ma garanaysid way aad iyo aad rashiida waan iska naqaanaa dhaqanka Soomaalida wuxuu iska yahay inta badan in aanay dadku ama familiyadu inaan kubad ciyaartiyo waxaas aan aad u jeclayn ama inamadii dalac ciyaarto raacda bal feedback ama waxa kaaga soo noqonayay familka sidee ahayd ma garanaysa feedback familka ama hooyo ama aaba kaaga soo noqonayay inaad wiilasha la ciyaarto kubadda ciyaarto maadaama inaan ahayd waa su'aal wanaagsan maxamedow الله يرحمه أبهي ولا مو شوقين ويسوق سام كل شيء كده ويدبوها هو يدينا وابيقول يرجعني شرتي صح وآد بيقولش على يدو وايو واد بن هو يدي ولا لطش على وحكستو وأن همي ونلاقي ما دا مو بروفيشنال ويدي قف يقول يستاجد تسمي هاي صح وايو تقاني دبع عدا هيجا وحي تقاني وحن كوفي عنها هاي رنتي لا يرانت دي لا ما أنت ويتعيش هاي مركا وحي أغاني تبتدين قف يعني هي الرجلين أما هم يكشرين عن هاي صح وحنيه مركا عقبتي وهاي ستي إن ماذا يدرى إن إنك تشوفه ولا نوني وده يعني عقبتي وها ويدري شريحتها كهر إن ماذا محاك الضبط دقي مركا وحاس إيمي مريتش سيدو إنك وقول كيلك دعي ويديله يسيك استيدي له هذا البري مركا البلاب يقف في بلاب يقانا آدياد رشيد فاهم الخيط كا قانو أنا وحنا قانا سيارة أنا قانا سيارة من سبورتيوها يا كل فامل كاديك يا سيارة ما خلقت يا كل يقولون فامل كسبورتي هايو بعض سبورتي كم لها يوني كنوجوين دكتور أحمد سليمان جامع شينة أيه يسوقنا ها سبورتسكا مركا نكاسها آدياد رشيد ما كانوا كنا مع إنه طبعا وقت يلا يرانتي يو وياها كردون مركي دم بدك ماذا الشيخ واحد نقطي مكانه وأنا كبرتي أنا عيارتي دقمة الشيخ واحد كبرتي هذيك كوحدة ولا إسلام مركانا قرصورة مركي دمنا واحد هاي دقمة الشيخ واحد قدومي دقمة الشيخ بلنا كوكلا هرينا مع اللي ماذا يا قرصورك يا أجاسمها ما يسدوها سدوا كوكسة كلا هرينا سد حتى يطل وما أنت ما كان أركيسي والبدن يلا خبر عوبنا هذا قش كينين rashiido wax walba iyada isku ahayd degmada ciyaaraha sheekh oo ahayd ciyaaraha runtii horkor u qaaday bal saddexdaas shaqo ee runtii culus sida kugu soo kala horeeyeen bal noo sheeg maxamed oo maadsantahay walaalo waxay ahayd process dheer oo aad u dheer bay ahayd waan jecelahay inaynu waqti u qaadano
maxamedow markaa aan ku yidhi iskuulkan soo dhameeyey ayaan degmada sheekh imi maadaama waan dee professionalkeeda ahaa ciyaaraan aan wax badan ka aqaanay waxaan imi galab galbaha ka mid a anigoo sheekh jooga ayaan garoonka sheekh tegey dabeedna waxaan ku arkay niman yaryaroo actiif ahoo kubad ciyaaraya waan ka tegey maalintii labaad baan haddana kusoo noqday gelinkii dambe waan arkay dabeedna maalintii saddexaad baan dabeedna dhex galay marka waxay ku ciyaarayeen kubad yaroo ah kubaddii foorta ahayd oo weliba ka dalooshantay ayay ku ciyaarayeen dabadeed waxaan ku idhi war bahashan hamigee u leedihiinoo dabeedna waxaan arkay nimankani inay niman doonaya dee cid gacan qabatay inay helaan dabeedna maxamedow iswaraysi kadib hargeysaan tegey waxaan soo iibiyey 2 kubadood baan soo iibiyey dabeedna shaqadii iigu horreysay aan hadalka kusoo dhawaaday iigu horreysay ee aan bilaabaa waxay ahayd in aan 2 kooxood u kala saaro dabeedna waxaan ka soo bilaabay siidhiwalaan ka soo bilaabay refree si aan ciyaarta ugu kala kantaroolo oo way isku xanaaqi jireen oo cid kala kantaroolsho maahayn marka si ay ula qabsadaan waxaan ka soo bilaabay siidhigaasaan maxamed ka soo bilaabay garsoore marka garsoorahan taganaynaa rashid waxaan xasuustaa sheekh waxay u ahayd magaalo dhexdhexaad waxay u ahayd gobolka togdheer caasimadiisa burco iyo gobolka saaxil magaalada berbera reer sheekhna reer burcna way iman jireen oo jimcayaasha kusoo ciyaartagi jireen anaguna waan iman jirnay marka waxaan xasuustaa markaanu nimaadno garsoorka adigoo noo haya oo runtii markay ciyaarta difference dhowr gol ama 2 gol ama waxaan kala leenahay waqtigu dheeraan jiray dabeetana cadceeduba soo madowaan jirtay meeshuna qabow mararka qaar noqon jirtay labada kooxoodna waa wada rag waxa ciyaaraya keligaa wax dumarka garoonkuna markii ku yaala keynta dhexdeeda markay meesha keynta tahay madow wixii jooga wada rag yihiin wax kaloo gabadha meesha aanay joogin dareenkaagu suu noqon jiray rashido wallahi maxamedow inaan walaalahay dhex joogun bay ahaayeen صح waayo mas-uul baan isu arkayey weliba ciyaartooyga degmada sheekh waxa ilaa halkan waa dhammaantooda gobolka saaxil baan wada salaamaya walaalo laakiin waxay ahaayeen niman ilaa xata al'aan aynu joogno waxa taash baa deecan ayaan u ahaa maxaa dhahdaye waxaan ka boqo iyo wax cid ila imanaysa iyo waxaas hamigaygaba may haynba yani anigu waxaan isu haystay qof leadership ah leadershipkuna in isaga dee laga dambeeyo mooyaane ismaan haysanin qof baaba hortaada soo istaagi doono xitaa kelmad ku oran kara aad iyo aad rasheeda mid kale kaftana ku idhaahdo waxaan odhan jirnay marka runtii aad baanu kuu ixtiraami jirnay sida dhalinyarada reer burcana ii sheegeen iyaguna aad bay kuu ixtiraami jireen ilaa haddana waa ku ixtiraamaan anaguna sidaasi leeg markaa waqti ciyaarta aad qabato waxaan odhan jirnay marka ciyaartu dhammaan weydo rashida ilaa ciyaarta sheekh ama bareeja ay keento ama badiso ma dhammaynaysaan odhan jirnay ma jirta inaad mararka qaar aad runtii garsoornimada ku dari jirtay inay kooxdu xoogaa soo dhawaato moral hesho oo bareeji waxay keento aad nala sugi jirtay ma jirta mise waqtigan saasun iska ahaa bay maxamedow climate kun baa la qabsan weydeen idinkuna xeeb baa ka timaadeen 1500 oo feet bay ka sarreysaa berbera sax marka waqtigina waan ku bilaabi jiray waqtigana way ku dhammaan jirtay berberunba hadii jaraale markay badiso sodon jirtay baashu degdeg intaan laydin bareejeen oo kale magaranaysa marka anigu horta haystay waqtiga dee extra timeka 5 daqiiqo lagu daro inaan ku dari jiray laakiin waqtiga dhammaan jiray aad iyo aad rashin markaan ka dhamaadno garsoorkii runtii garsoor caalami ah runtii lagu wada qanci jiray oo reer burcana runtii aad uga sheekay dhalinyaro badan oo is wareysanay garsoorkii waad ku soo waday waqti labadii kooxood baad runtii sidii isaga hormanay mar walba u dhistay sidaan gadaal dambe uga iman doonaa garsoorkii maxaa markaa kugu soo xigay markii dambe maxaad noqotay garsoore adigoo aad macalina iska ahayd kooxda wadatay xilmaa markaa noqotay guddoomiye degmada sheekh xilmaa lagu doortay maxamedow wallahi walaalo horta halkaa aynu ku yar hakanne waxay ahayd waqti dheer bay ahayd waxay ahayd waqtigan geliyey somaliland ama way ku yar tahay ama lagama soo heli doono ilaa xata al'aanna maan arag sababtan taamlay waxa weeye waxaan isu ahaa waqtiyada aan kuu sheegayo refree baan isu ahaa guddoomiyaan isu ahaa maamulaan isu ahaa tababaraan isu ahaa yani waxaasoo dhan waxaan jecelahay inaynu dub ugu noqonno waqtiganu burco iyo sheekh isku xidhantay iyo waqtiganu berberiyo sheekh isku xidhantay صح يعني
markan quality-ga arkay inamadan yaryar inay yihiin inama yar oo cid kasta oo Somaliland u ciyaarta yacni waa hanka ilaa iminka aan leeyahay ama maxamedow ay dee xaqiiqda dhabta ay tahay kan walaala ah oo wada dhashay oo wada tutulaara ah صح marka gudoomiyenimadu waxay timi maxamedow de xilli dambe oo muddo badani ka soo wareegtay waqti dambe oo nimankii de isla leekaadeen niman hawshii ila fahmaya ay soo baxeen oo aan qaar dee calanka u dhiibay markii dambe allah yarxamu ninkii afcase dhintay baa noo yimi oo isaguna hawsha dhinaciisa igala qabtay ilaahay ha u naxariistee marka muddo dambe ahayd gudoomiyenimadii laakiin intii hore waxaan ahaa rifrii iyo tababare aadiyaan kabacdi rashiday waxaad noqotay runtii dee gudoomiye degmadaad noqotay waxaan marnaa berbera waxaa ka jiri jiray waqtiyadaas oo runtii aad Somaliland oo dhan u xasuutaa tartankii ciyaaraha gobolada waxaan leeyahay ramadaanta aan idhaahdee oo runtii ahaa tartan runtii aad loo xiiseeyo loo jecel yahay waxaa kasoo qayb geli jirtay waqtigaas degmada sheekh koo ka socota oo groupka ay ku jirto runtii aan ahaan jirin group runtii cabsi badan ama groupka dhimashada groupka gashay ahaan jirtay waxaa kaloo ognahay in duruufo idinku xeeran waqtigaa jireen hadday noqoto transportationka gawaadhida idin keenaya kuwa idin qaadaya bal xidhiidhka noocaasa ee berbera markaa koobkaas qaaliga aad kasoo qayb geli jirteen iyo bal duruufihii idinku gadaanaa waqtigaas iyadana runtii bal xus iyo sida wax ahaayeen aad iyo aad maxamed aad iyo aad baad mahadsantay waxaas lahaa kelmaddaa kuma weydiin doono oo balaad xagga dambe xitaa kaga dartid sax maxamedow walaal aan ku bilaabay horta burcaan idinka horreeyey intaanan rabaa bilaabin markanu aan arkay nimankani inay niman wax iska celin karayihiin kubaddii ugu horreysay ee koob rabadaan aanu ka qayb galno reer burco oo aan aad u jecelahay oo ciyaartooyga dhammaantood halkan ka wada salaamaya ayaan horta ku bilownay sax waxaanu ciyaarnay koob dhammaystiran oo burco ah waan gartay rabadaan bildan rabadaan ah maxamedow burco markii aanu ka bilownay hal maalin oo nalaga badiyey ma jiro one day nalaga badiyey ma jiro sax markii dambe la yimi finalkii labadii kooxood ee semifinalka joogay ee maalintii maalin ka dambayn lahayd ee anagu aan koobka aan u safan lahayn ayaa labadii kooxood noo sii degeen kaarto noo sii degeen annaga sax nin waxaa la yidhi war nimankan ma qaban karayna maxaynu samaynaa haddaynu reer burcan nahay dabeedna labadii kooxood baa markii wada ciyaarayeen ayaa adigu qaar la istiriyo kaadhadhiyo waxba la siiyo hebel baa kaadh lagu siiyey dembi la-aan iyo waxba adigu meel waxay ahayd naloogu showray bay ahayd dabeedna maalintii dambe markaanu tagnay ee aanu koobkii doonay markaa koobdee ma jirina waqti hore ahayd oo lacag baa markaa jirtay sax dabadeedna markaanu meeshii tagnay ee aanu kubaddii la bilaabay ayaa isla haafkii horeba 2 gool baanu ka gaadhsiinay sax dabadeedna markii la arkay koobkii inaanu qaadayno carqaladii baa la bilaabay marka waxaa la bilaabay in nimankii ciyaaraya maqas lagu qabto in ogaan laysugu tuuro marka waxa la hebelow shalay waa adigii hebel siiye kaarhka sii waxba adigu wax noocaasaa dhacay dabadeedna anigu maxamedow kuusoo koobay wadda cad baana laga soo mariyey koobkii annagoo badinay ayaa wadda cadna laga soo mariyey kabacdina berbera soo wareegteen taanan horta ka soo bixin waanu isdilay waxaanu isla soo gallay burco halkii kuraasi cadde burco anigoo ishaysanaan halkaas isla soo gallay dabadeedna markay noqotay qir iyo qir baa waxa noo yimi halkan aan ka salaamaya xinno good iyabaa noo yimi oo dee niman waaweyn oo dee ciyaartooyda ahaabaa noo yimi dabeedna walaal maxaa idinku dhacay buu yidhahdeen waxaan ku nidhi walaal waanu badinay koobkiina waanu qaaday dee nimanka lacagtayda in naga siiya dabadeedna markay arkay dee xaaladdu inay xuntahay inaanu dagaalanno oo dee ay markaa halkaa dee meydkiina laga guray iyo inay iska tagtaan oo na maqashaan deedna iyagaanu maqlay annagoo dhaaranayna oo le qof reer burca ciyaartay reer burca oo berbere ku socda waanu arki doonaa soo bartanka anagu ma joogin halkaasaanu kudegaynaa sax horta kaasaana soo maray aad baan reer burca u salaamayaa markii dambe maalin maalmaha ka mid maxamed kuugu daray anigoo burca jooga nimankii waxaa nagu sameeyey baa rabadaan bay ahayd sax sanad baa kasoo wareegay anigoo gaadhi sugaya unbaa xashiisho iyo 2 kaloo ay ku jiraan baa meel iga salaamay haddana ilaa ilbirogsigii wax yar ka bacdi iyaga oo bac afur ku sida ayay inta ii dhiibeen bay iga yaaceen dabeedna bacdi baan soo furay mise afur baa ku jirta masaan ku ruray war wuxuu rag marka haddana ka salaamaya ciyaartayga reer burco walaalo berbera waa run duruufaan nagu meersanaa duruufaan nagu xidhnaa berberaanu ka soo qayb gallay
يعني waxaan u haynay interest maxamedow saacadda waxaan ku odhan karaa haddii jeerale waxaan is yidhaahdaa qofka ama dadka waxa encourage ama xiisaha u haya ee meel adag gaadhsiin lahaa dib baa loo celiyaa صح sababtan taa kule waxa weeye waxaanu ahayn waad noogeed maxamedow markaanu berbere imanayno ee aanu ciyaarta u soo baxayno transportationka iyaga cidi nagama soo bixin jirin صح in kastaba aan ka keena ee anaa keeni jiray dowladda hoose sheekh bashidaalka naga soo bixin jirtay berberaanu iman jirnay berbera waad ogeydo runtaa weeyano gruubka geeridaanu mar walbana lagu beegi jiray oo mar aanu gruub yacni yar aanu soo galay may jirin صح maxamedow dhibaatooyin kale noogu daraa waxay ahaayeen dee maanta degmadaydii koowaad ee berbera halkan hayga maqlaan iyo ciyaartooygii weli maan arag maxamedna ku dhaho ciyaartooy intay noo yimaadeen magaalada xitaa nagu casooyey maanaan arag intay noo yimaadeen berberaha xitaa dooran ba ay yidhaahdeen warba dadkana inta badanna ciyaartooygeena aynu dee casuuno aynu sii saarno may jirin waxaa nagu dhici jirtay maxamedow caqabado kale oo dee xagga cunnada oo kale marka rabadaanta naloo ballamiyo waxaanu meesha ugu tegi jirno wanaagsani may jirine iyadoo waxoogaa dan nala meermeeriyey baanu qaadan jirnay marka dambena nalamaanba bixin jiro naloo jiro ciyaartooygii badiyey ee halkaa ka anbabaxaya shidaal ma haystaan waxay ku tagaan ma haystaan cidiba nagamay soo daba hadli jirin marka yani waxaan ka hadlayaa awoodda intaa leeg baanu nahay aad iyo aad rashida way jirtaa waan qirayaa waqtiguna runtii xagga ciyaartooyga haddaan noqno waxa weeye maxamedna ku dhahbaatay way jirtay ciyaartooyga laftooda duruufaha ku xiran waqtigaa iska adkaa runtii laakiin waxaan ognahay inaad ku iman jirteen gawaadhida sheekh soo raaci jirteen habeenkiina waxa weeye aad runtii waqti si adag ma garanaysa iyo qorshayaal idinka ah oo maamulada ka garab siinin ciyaartooyada ka garab siinin aad ku bixi jirteen si fiican baan ogahay laga yaabo inaad ka afurtaan magaalada laakiin aad saa ku bixi jirteen rashido koobka ramadaanta waxaa jirtay runtii dee koox adag baa la iman jirteen oo aan lagu talageli karin waxaan aad u xasuustaa waqtiyada ka mid ah kooxdii ugu fiicneed waqtigaas waxaad timaadeen final bal sanadkaa finalka aad timaadeen iyo kooxdii dekada aad isugu timaadeen oo finalka isugu timaadeen waxay ahayd ciyaartaas aan xasuusiya taageerayaasha ama dadka reer berbere hadda daawanaya waxay ahayd ciyaartii keliya ahayd ee garoonka berbere ee yara hadda laga guuray lacag lagu galay anigu maalintaas finalka kooxdeeda way ka hadhay laakiin ciyaartooygii waxaan ka mid ahaa lacagta urinaya aniga cabdiraxmaan dhaygel waxaan xasuustaa tigidhadii lasoo jara loogu talagalay in ciyaarta lagu daawado inay ciyaartoon bilaabin iga dhammaadeen oo wada jaray kadibna aan waashmaankii albaabka taagnaa ku yidhi tigidhada dadka ka qabato ha jeexjeexina ii ururi dib baan u iibinayaa bal ciyaartaas qiimaa lahayd ciyaarta keliya waqtigaa lacag lagu galay kooxdiinoo final timi hal gool oo maxamed nafer ay tinkiinu idinka dhaliyey baa laidinka dhaliyey bal dareenkii ciyaartaas iyo sanadkaas iyadana dib ugu noqo والله محمد وحسوس قال ويه وحن كله هاي حسوس ريب ويه تي في جني بيه برنامج جني محمد هرت سيدا دو وجيد با عيار كستا أو رمضان فاينل كان يمجرني مد يلا بانو مريان ويمان لكن فاينل بانو ودي يمجرني صح waxa ugu badan lagu reebi jireen rigoorayaal bay ahaayeen صح waxaan xasuustaa team kasta oo berbera ka mid wuxuu noo soo kaxaysan jiray haddaanan dee qaldanay aanay jirin hargeysa laba ciyaartooy hargeysa ayaa kooxda reer berbera laga hormanaya ku jiri jiray halkan ahayn shiikh sooca صح لأنه بقشنا لقى سي بقنا وانا يدرون بانا هاي واحد قال محمد واحد ستا قيل نسنو بربري يبرع على بعض مويتو لانه احنا لما دق حبا باش كسو كسين ما حد ستا رشيدي horta waa sax la way jireen ciyaartooydaas laba ciyaartooy bay ahayd saddex bay ahaan jireen koox walba loo ogolaa ku soco horta waa runtaa walaalo ciyaartaasi si qurux badan bay u socotay inaan badiyana ciyaartaasi waxay ii ahayd biyo kama dhibcaan waayo dee nimankan watay baad garanaysaa tutubaaraha ayay kala dhicin nin fadhiya iyo nin jooga nin ciyaarayo ciyaarta ku jiray isku halayn buu goolkaas iga dhasho dee waxaan maalintaa waxaa nin reer shiikhun ba iga dhaliyo maxamed nafyar buu ahaa halkan baan aad uga salaamaya maxamed reer sheekh u ahaa reer bere ma lahayn muu ahayna reer sheekh buu ahay hay ku soco waaye waxa isku haleeyey sayid cali baa markaa baruur baa ku jiray halkan aan aad uga salaamaya goolwalaha iga qaaliga ahaa iyo aadan hombiye
ayaa isku hadlayo dabeedna kubaddaa taraartay markaa aadanna wuxuu is yidhi dee furuur bay gaadhaysaa ma aadanna si yaro qabo buu yar cararay deedna naf yaro aadan daba taagnaa unbaa is yidhi kubaddaa waa gaadhaysa olready waabuu gaadhay dabeedna sidaasuu nagaga dhashay goolku aad iyo aad shiday ciyaartooyda Australia baa la oran jiray koox walba runtii way lahaayeen laakiin sheekh maadaama iyadu degmadeeda isugu filan ahayd waxaan qabaa waqtigaas uma baahneen bayna ciyaartooy keensadaan way ciyaartooy quality leh ahaayeen halka berberan la qaybin jiray koox walba la xiseeray loo ogolaa marka dabcan ciyaartooyga marka idinkuna timaadaan waxay arkayeen kooxdii la ciyaaraysay oo uu ciyaaraan ciyaartooy reer Hargeysa shiday waxaan kala jeclayna bal ku weydiiyano barnaamijka gadaal dhigan doona wax badan inaan ogaado bal xiriirka aad degmadaadii iyo ciyaartooyga waqtigaas qiimaha lahaa aad la leedahay bal shan ciyaartooy waan ku weydiinaya bal maanta barta dunida kaga sugan yihiin iyo bal xaaladooda iyo bal sad runtii noola wadaagto oo anigu runtii qaar badan hadda meel ay dunida kaga sugan yihiin aanan garanayn ciyaartooyga koowaad waa Caydarus Aadan Garwaf kale waan ogahay meesha ku nool yahay ciyaartooyga labaad aan ku weydiinaya waa Guuleed oo runtii ahaa weeraryahanada ugu fiicnaa gobolka waqtigaas degmada Sheekhna ugu fiicnaa Guuleed yare waxaan isna ku weydiinayaa ciyaaryahan dhexda ka ciyaari jiray oo runtii aan awood yaraa laakiin ciyaartooy aad u farsamo fiican ahaa la oran jiray T-Shop waxaan ku weydiinayaa ciyaartooy kale oo isna ilaalo Harbi oo ciyaartooy deganaan badan ku ciyaari jiray Cabdiraxmaan Cali Dheere iyo Qoti bal lixda ciyaartooy bal soo koob mid walba bal halka ku ogtahay maanta هذه أضبط ما تنتهي. أرجع عيدروس بعدي ويديسي عيدروس آدم قروف أو اللي بنكيها وحد شوقة المقالة هرجيسة أيو شوقة أضبط بان كانوا بسلام يا وقرن استدعي عيارتي سي يو لقت الدورين ولقت تعبتنا ولقت تعبان كرنا عيارتي قال وحوها بولد علي الليبان وحوها نمبر 9 وحوها نمبلايا وقرن اسا عيارتي قصدحات وحوها T-Shop T-Shop iyo guureed labadu waxay joogaan sheekh bay joogaan iyagana aad baan halkan uga salaamayaa waxa iyaga waxa wada Cabdiraxmaan Cali Dheere iyo Cabdiraxmaan Cali Dheere wuxuu joogaa isagu barbarooyinka ka shaqeeya laakiin sheekh buu degan yahay waxa isagana aad weydiisay Harbi wuxuu degan yahay wadanka Australia degan yahay isaguna aad qoti isaguna I think inuu barbar joogo Cabdiladiif Aadan Garwaf oo Caydarus walaalkii ahaa isaguna wuxuu joogaa magaalada Berbera sheekh uu degan yahay laakiin Berbera isla joogaa aad iyo aad rashida lixda ciyaartooy waxaan ku weydiiyey way badnaayeen aadan Humbiya ku jira isna difaaci degmada sheekh ahaa oo isagoo runtii isaguna magaalada Burco ku nool macallin san ku warhayo su'aasha waxaan ku weydiiyey lixdan ciyaartooy waxay ahaayeen ciyaartooydii runtii marka gobolka xitaa la eego xitaa badankooda gobolka markii dambe u ciyaaray ma isleedahay rashiidoy xiriir fiican oo la degmadii si fiican baad uga warhaysaa ilaa hadda waanu iman doonaa bal gaalada ma iman doonaa ma soo mari doonaan degmada sheekh ciyaartooyga waqtigaas aad wadatay aad kaga soo qayb gali jirtay horyaalada magaalada Berbera markii dambena gobolku qaadan jiray ma soo mari doontaa degmada sheekh maxamed walaalo su'aalo aad u qurux badan baad weydiinaysaa su'aashaad weydiinaysaa waxay dib ugu celinaysaa historygii sheekh way dib ugu celinaysaa صح aniga oo nimanka ka tusaale qaadanaya jiil buu bedelaa soo maad maqal halkan waxaan aad uga salaamayaa dubku ugu noqdee gudoomiye ku-xigeenkii hore ee Cabdi Cartan Xaaji Abubakar صح wuxuu ahaa ciyaartooygii Soomaaliya gobolka Togdheer ciyaarihii Soomaaliya sheekh markaa wuxuu ka tirsan gobolka Togdheer صح ciyaartooydii u ciyaari jiray buu ahaa يعني waxaan su'aashaas u soo qaadanaya marka leedahay ma laga heli karaa oo xiriir ma la leedahay degmadii oo nimankaas oo kale ka soo bixi doon ilaa waqtiga ayay soo jireen u ahayd صح taariikhda hadda duban taa Cabdi Cartan iyo gadaal baan isku weydiin doonaa laakiin sidaas uma kaaga jawaabaya Caydarus iyo Cabdiraxmaan iyo Qoti iyo maxaa dhahday Aadan iyo T-Shop iyo Guuleed rag aad is oranayso malaa laba jibaar bay ka sii wanaagsan yihiin baa magaalada imka jooga aad baan uga warhayaa imka bay maanta bay ka ay dadku ka badan yihiin aad iyo aad shidalkaana su'aasha dul istaagaya waxaad xustay inay jiraan ciyaartooy la leefala ciyaartooyga ama kaba wanaagsan ba laakiin ciyaartooygaas waqtigaas waxay isbareen Soomaaliland dhan bay isbareen oo runtii aad looga yaqaana Caydarus haday noqoto Cabdiraxmaan Cali Dheere sidoo kale Qoti
tiisho guulad gebigoodaba taariikh fiican bay ku leeyihiin berbere keliya maaha gobolka saaxil laakiin dalka dhan bay maxaa maanta markaa ciyaartooyga maanta dee la quality-ga sheekh jooga sababta maanta ay u muuqan waayeen loo anigu xitaa ilaa hadda ciyaartooy aad u badan sidaa waqtigaas ma aqaano maadaama xidhiidh fiican aanan aragna maxaa markaad leedahay differencega kuwaana fursadda noocaasi siiyey ay isku tusaan tayadooda tusaan cid walba kuwa maantana runtii loo arki waayo maxaad u malaynaysaa inay tahay sababto waa laba masalo maxamedow masalo horta anigay ahayd sax oo waxaan ahaa maxamedow wax kastoo ciyaartooygaygu rabo qof yacni survival u soo maray oo daboolayay sax aniga oo waayo gobolku wasaarad buu leeyahay wasaaradda anigoon waxba ka heli jirin haddana sideedaban haddii maxamedow anigu aan haddana aan u wadi jiray inaan xawaaraha ku socdo waxa horta qodobka ugu muhiimsan number 1 kaasoo ahaa waxa maanta dunida ay isbareen ee dunida ay hore ugu socdeenna waxay ahayd in aan wax kasta oo aan igu soo hagaaga ama caqabado igu timaada aanan uga fadhiisanaynin awood uma lihid laakiin wax walba waxaan ogaa inaan kari karo watana rag yacnihii halka aan doonayo inay gaari karo cagtooda isku gaadhsiin karaan anna waxaan hayay fikirkii iyo caqligii iyo maskaxdii iyo dhiiranaantii baan hayay aan taa u soo noqdo walaalo oo nimankan maxaa reebay xilligan reebay waxa la maxamedow falka reform ma dhaqdo waxaan saarayaa oo aan doonaya inaan gadaal ka sheego wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka cidda maamulka u ah ee magaalada berbera ee mas-uuliyadda sportska waayo maxamedow iska daa wax kale halka berbera iminka ay ilaa iyo garsoorayaashu ay mushaarka qaataan sheekh xitaa guddoomiyaheedu mushaar ma qaato wax kale iska daa marka dhiirigelinna ma haystaan oo gobolkii kama haystaan gobolka wasaaraddii kama haystaan maalinkan maanta cid dhiirigeliso oo degmadii way jiraan oo degmadii maasha allah waa la wadaa oo iyada iminka is wada oo inay kor isu soo qaadaan aad baan u jecelahay laakiin qofku mar haddii xubini meesha ka baxdo waa nimo yaryar oo de naga yaryar iminka oo doonaya cid gacanta soo qabata ciddii soo qaban lahaydna waxa weeyaan waa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha inay aad ee aanay caan ku noqonin waa halkaa weeyaan aad iyo aad runtii waxaan iyadana doonaya in dul istaago sida sheegtay waxaad tiri gaabkii ama gacantii ama taageeradii wasaaradda gobolka cidda ayaa maqan waxaan kala ognahay waqtiga lafteeda in aanay garab badan iyo taageero badan aanay jiri jirin laakiin sheekhay socon jirtay oo runtii ay iswadi jirtay waxaan halkaa ka cad markaa doorkii adigu aad ku lahayd degmada in ciddii bedeshay markaa ay runtii volunteerkii iyo waqtigii dadaalka ay gelinaysay uu yaraaday garab kalena aanay ka helin sidan hadalka u dhigtay degmadii ama gobolkii guud rashid haddaan ku noqono hadda degmadii sheekh waxaan ku uri horta aniga waxay bedelay ilaahow ku naxariiso oon gacanta ka soo saaray halkan ayaynaynu ka xusnaa wanaagsan oo inuuga ducayno rabbi naxariistii jannaha ka waraabiye axmed nuur xuseen ciid ayaa i bedelay waad ogeedoo nin actiifa buu ahaa ninkii dee keenay buu ahaa dabaday inay rag ka saftaan ay gobolka u saftaan ayuu ahaa waxaan xasuustaa maxamedow waa runtaa waqtiyadii aynu gaaraynay ilaahu ku naxariiso markuu guddoomiye ahaa degmada uu ahaa iisoo xasuuso maayarkeenii dhintay gaadhigu la dhacay waqtiga siciid soo muhayn siciid daawud allah yarxamu ciyaartii ugu dambeysay waqtiga ee aynu safannay qotibaa waad garanaysaa ee goolka sigay oo ay birta kaga dhacay qoti iyo diiliya iyo axmed nuur iyabaa ku jiray siciid daawud wuxuu magacaabay rag shantii inan ee shiikh ka socday kaasina waaye siciid waan dhinac fadhiyey wuxuu waxa ilaahay ballantii ah sanadkaas sanadka xiga ee ay berberib halkaa imanayso 11 tutulaaraaba shiikh baan ka keenaya maadaama raggaasi ku jiraan marka walaalo waxay ahayd waxaan ku yidhi iminka waa rag yaryar raggaa yaryar iminka wayse soo qaadayaan laakiin waxa aan jecelahay haddii aan waxa la yidhaha hadday midigtu maqan tahay dee bidixdu ma samayso sacab ma samayso aad iyo aad waxaan aad u jecelahay oo aan doonaya inaan bayaamiyo
in ay gacantii wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee gobolku ay sheekh total ka maqan tahay aad iyo aad runtii maxamedow anigu waa laga yaabaa inaan dee ama walaalahay ama cid kasta aan ka soo qaadaye cidi kaabaysi ay jirtay laakiin de nimankan yaryari haddii waxa iyagu hayaan xitaa gacantooda iska soo ururiyaan anba mushaar ma qaadan jirin oo de wasaaradda xagga dambaynu ka geli doonaa kama qaadan jirin gelweyne ayaa imkana ku jirtaa aad iyo aad rashid anaga hore ugu soconayna hadda degmadii sheekh tartanada magaalada berbera lagu qabanayo kama soo muuqato runtii iminka horyaalka iminka dhammaaday kumay jirin midkii kasii horreeyey koox baa ku jirtay shaxda ciyaaraha laakiin iyagoo ciyaaraya maanu arag bal waxaad nooga sheekaysaa hadda sheekh degmada siday ciyaaraheedu yihiin kooxo ma ka jiraan imise kooxood baa ka jira tartano gudaheeda sheekh ma lagu qabtaa bal xaaladda guud ee sheekh noo soo koob iyo kooxaha ka jira tiradooda hadda jira walaalaha maxamedow way jiraan waxa ka jira 12 kooxood baa ka jira ma sheekh ha 12 kooxood 12 kooxood baa maxamedow ka jira haye imika laba wareeg baa la qabtay wareegga siira eeda iyo waxa la qabtay imikana waxa la qabanayaa wareegga siiro bida la qabanayaa siira eeda uu dhamaaday 5 kooxood oo siiro eeda jira 4 kooxood oo siiro biya jira 3 kooxood oo siiro siya jira maxamedow yani waxaanad u arkaynin waxa weeye mar haddii dhaqaalihii wasaaradda ay meesha ka maqan tahay ma dhici karto in si fudud loo arko laakiin qabanqaabada imikaanu ku jirnaba ah in ay wax walbaaba maxamedow ay bannaanka iman doonaan oo taa kale walaalo ciyaartii inaanay ka dhex muuqanin iyo koobkan imikaba hal kooxood baa ku jirtay hal koox baa ku jirtay halkii kooxna adigu way hadhay kooxdii dambe lagu soo casuumaynaa iyagaa diiday sportiska maamulka sportiska sheekh waayo waxay yidhahdeen annaga nama qabato hal kooxood maadaama oo magaalada degmo dhisan oo degmadii labaad ee gobolkaanu nahay ciyaartooyna naga dhisan yihiin wixii aanu xaq u leenahay at least 2-3 nala siiyo dabeedna gobolku wuu ka hor istaagay dabeedna iyaguna waxay yidhahdeen bes haddaba haddii aananu intii aanu doonayna aananu helaynin kama qayb geli karno xaqna wuu leeyahay aad iyo aad rajooyintaa waxaan runtii aan jecelahay waqtiga nagu yaryahay inaanu warbixintii guud ee degmada sheekh aynu kusoo dhaafno iyo ciyaarihii iyo kooxii sida ahaayeen waxaan jecelahay waayaaragnimadaada ciyaaraha inaan dhowr su'aalood runtii oo kooban iyo kooxdaadii runtii maadaama adigu aan ciyaartooy ahayn haddana su'aalihii aan ciyaartooyga weydiin jiray baan adiga ku weydiinaya si aad kooxdaadii bal uga xusto shakhsiyaadkii waqtigaas bal siday u kala duwanaayeen kooxdaadii rashida markaad eegto aad gacanta ku hayn jirta waqtiyada ciyaaryahanka ugu dhiirigelinta badan ee runtii marka laga yimaado adiga maamul ahaantaada dhiirigeliya ugu fiicnaaya ee aad gacanta ku haysay ee aad soo qabatay kumuu ahaa allah yarxamo axmed nuur xuseen ciid buu ahaa nin kaleba ma jirin ilaahay u naxariisto intaa aad macalinka ahayd aad sheekh wadatay guushii kugu fiicnayd eed gaadhay teebee ahayd yaasad ka gaadhay maxamedow mar walba waan guulaysan jiray tii kugu fiicnayd laakiin guulihii waa kala duwan yihiin wallaahi maxamedow dee guushii igu fiicnayd imika ma xasuusto waayo markay dee kuugu daran tahay markay kuugu xun tahay inaad xasuustaaba miina laakiin aniga guushaydu waxay ahayd inaan koob berbera ka qaado maad qaadin maan qaadin oo waxaan u qaadi waaye waxaaba dee si xaddan yimid aad iyo aad waayahay guuldarrada waxa ballan noo ah si kastaba u soo soco si kastaba u soo jab si kastaba finalka u kaalay inaanu koob berbera ay buurtaa sheekh ka bixin waayo guuldarradii kugu xumeed soo martay xasuusataba teebee ahayd daniyow maalintaasay ahayd igala daba baxay nafyar igala daba baxay baan maalintaa wadnaha xoogii kacay aad iyo aad waayo ciyaartooyda ugu fiicnaayee aad soo qabatay kumuu ahaa yacni aan idhaahdo aad tababartay ka mid aha kooxda ciyaartooyda ugu fiicnaayee aad usoo noqotay macallin wallaahi maxamedow horta ilaahay baa runta jecel may kala dhacaynin nimanka markay kubadda qaataan anigaygan aan isoran jiray mahawo kale aad ku jirtaa maxamedow dreamkayga nimanka aan ka qaaday been kuu sheegi maaye waxay ahayd يعني إن هدان دو إلهي بان قدرين إلا وقت جلسي شوقنا يعني دين وقت جاي قلت له وحها رجعس أي مال ما كم ده
halkay maanta Manchester iyo ka ciyaarayeen inay ka ciyaari doonaan wallahi bay ku sheegayaan waaye hal ciyaartay noo xus waaye waarigan ku sheegay dhageyso waliba taay raacaysay jiil buu keenaaye nin walba ninka la dhashay balaayo waxaad moodaysaa inuu cagtiisa haysto nin walba walaalkii baa bedel u ahaa bareeg nin walba walaalkii baa bedel u ahaa markaasaa mid la dhacaan waxaad moodaa cagtooda iyo kubaddooda inay israacsiiyeen haddaan nin kuu soo xuso ninka ninkaasi sina uu aad buu ugu wanaagsanaa ninka aan kubaddiisa iyo baaskiisa ka heli jiray ee halkan doonayana uu dhigo kubaddiisa aan la qaban jirin iyo ninka tiisob la yidhahdaa buu ahaa tiisob aad baan u salaamanaa meel kastuu joogo ciyaaryahankaas ciyaartoy runtii akhlaaq badanna uu ahaa runtii ciyaaryahankii somaliland gebi ahaanteeda intii aad ciyaaraha ku xidhnayd ugu mucjisada badnaa ee aad uga yaabtay kubaddiisa kuma ahaa guud ahaan dalka oo dhan waqtigii mise waqtigan waqtigeennii niyow wuxuu ahaa ninkaasi nin lilaawi kara maaha warii soo xasuusan ninkii markii dambe tababaraa noqday ceerigaabo westi acuudu billah ninkaas ma nin laylaawa abuha bilaayo haaye saddexdii maalintii xasuustay aad iyo aad rashiiday waxaan jecelahay inaan iyadana runtii aan xusno oo aan u galo hobbiiskaagii ama adiga dooqyadaadii intaanan u gelin waxaan jecelahay rashiiday maclamad baad ahayd runtii waayo arag baad ahayd inay koox noqoto koox akhlaaq badan kubad fiican ciyaarta dadku jecel yihiin runtii aad u fiican maxaa u suurto gelin karaa nasiibku iyo guusha iyo gudarradu aad iyo aad waa fursaddan doonaya inaan qof kastoo isboortsiga doonaya inuu soo galo ama ku jira inuu ka faa'iidaysto sax waxaan tusaale uga dhigayaa weliba aniga kooxdaydii waayo koox kaliya may ahayn waxaa jirtay koox sunderland waxaa jirtay koox dowladda hoose iyo siire aadi waayo labadaa kooxoodba waxay ka yimaadeen oo kasoo farcameen nimankaas siire aadi waa nimanka aan bedel doonayo ama koox dowladda hoose baan kasoo qaadi jiray ama sunderland baan kasoo qaadi jiray isku mid baan ahay saddexdaa kooxood in berigii degmada ka jiray aadna waan wada salaamaya akhlaaqda aanu imaado waxaan tusaale kuu siinayaa maxamedow dhammaan ciyaartooygaygii oo dhami waa wada jaamici waa wada macallin iyo wada injineer midhan haddaan soo qaato weliba ninka la yidhahda ibraahim macruuf ee garoonka macruuf ka furay berbera ee ciyaartooyga waa injineer akhlaaqda waxa u keenay isagoo nin walbaaba guriga hooyadii iyo aabihii kala soo baxayey waxa u sii dheeray taa garoonka markaan imanayno waxaanu ka soo horjeedi jirnay waxaan odhan jiray horta ninaa salaad soo tukanayaan u imanin waayo waxay ahaayeen niman imaqla runtii akhlaaq leh edaab leh waxaan jiray nimaan soo tukanay horta garoonka yaanu igu iman waa ta labaadee cayda ha caytamaan laakiin cayda waan ka ilaalin jiray oo ninka garoonka wax ka caya waan ka saari jiray هذا أنت تساعد أجنبي سكرون كي يقبح بالوريج. أخلاق ذا السبحات نوع هاي صدق دقيقة عيارتك كسر رينج لي وحكم ذا وانوين كي نيا هو حنا كوب بورينا يا مرور إن سبورتس كا يدين كل برشلونة ينون نبرود هاتو سبورتس كيدين كل يقول حتى ما أنت قاد برودو بريتو مسي ودن دون تدين أبغون هذا nin meel ka soo baxay ma noqon doontid waalidka ma anfici doontid khasaaran baad ku dambayn doontaa ninka daarada ku qaylaan noqon yani waxaan siin jiray encourage fara badan waxaan fire free baa la yidhahdaa haddaad doonaysaan in caalamka berri ka maalin mustaqbal baad doonan doontaano waddamaa kala qaban doontaano jaamacadaydin geli doontaan marka aqoontu intan kuma eka waxaan jecelahay inaad mana ordi doontaan niyahow marka waxaan odhan jiray yaana idinka dhaxaynin kubaddaasi inaad kubadda ciyaartaan iyo waxbarashadiina iyo salaadiina maqlay bay ahaayeen rag balwadna way ku jireen laakiin kumay badnayn 2-3 nin bay ahaayeen raggaasina balwadoodu mabay badnaynba runtii aad iyo marka akhlaaqiyaadka iyo dhaqanka iyo waxbarashada iyo sportiga in la isku hayo ayaa runtii taladaadu noqonaysaa waxaa walaalkaa dhex galay iga raalle haw nimankaasi waxay ordi jireen 18 kilomitr tuulada dubur iyo sheekh waxay isu jiraan 9 kilomitr nimankaasi interest waxay ahaayeen inay yaacaan
dabadeedna halkaasay orodka ka bilaabaan magaalada dubur bay ku talaabo ka socdaa waa 9 kilomitir go aan baag waa 18 kilomitir ragga yaa citray ee nasan jirin bay ahaayeen aad iyo aad inagoo ku soconayna su-aali koobnaa rashida sportska ama kubadda cagtu waa hobbieskaaga ma jirtaa wax kale oo hobbiya ama haddii laga yimaado kubadda cagta aad jeclaan lahayd oo ku noqon lahaa hobbigaaga labaad waa arrimaha bulshada oo dee aan waxaan ku takhasusay hobbiga laakiin hobbi weeyaan taas hobbigaygu walaal waxa weeyaan waa hobbigayga labaad horta waa ciyaaraho iyaga inaan ciyaar ka maqnaado daawashadeeda waa habeenkii xalay tegey waanan odhan lahaayo qofku hadduu hobbigaa yeesho dabeecaddu yeelanayaabaa ah inuu dadka jeclaado dadka ku dhex jiro integration shibkiisu uu ahaado qof yacni soo jeeda oo xitaa maskaxdiisu furan tahay marka hobbigaasaan leeyahay aad iyo aad waxaan jecelahay maxamedow dadka inaan ku dhex jiro oonan ka dhex bixino qof walba uu noqdo walaalkay aad iyo aad kooxaha European teamska naadiyada Europe kooxda adiga aad taageeraha u tahay waa kooxdee buran kama joogo watee waxa weeyaan waa nimankii shalay 7 birka ku badiyay Chelsea cagweyn Chelsea weeye ha Chelsea cagweyn aad iyo aad maanta shan lagu xistay waayahay qaramada iyaga qaranka hayaay Brazil aad iyo aad Messi iyo Ronaldo iyo labada midna ma jecliyay waa ka soconna markaa rashida haddii maanta lagu dhahdo rashiday halkaasaa lagu soo joojiyay diyaarad jet ah keliya ku qaadaysa waxa ay isu kaa saaran yihiin dunida meeshaad ugu jecesha u dalxiis tag halkaad u dalxiis tegi lahayd dalkii baan tegi lahaa igu odhanin sacuudigaan tegi lahaa igu odhanin maxaa dalkiiga afwajiyeysaa dalku waa dalkii home space weeyaan waa gurigaaga hooyo laakiin adduunka meeshaad jeclaan u dalxiis tagta maanta niyadaada ku jirta sacuudiga iyo waad iga diiday iyo waddankii waad iga diiday waad ogtay dee labada halkan ka tegi lahaa allana waa ogyahay sheekhood hore lahayd oo ku fahmayan lahayd waayo waraha isxambaarta sheekh xubinka yeeshee erigaabo xidhayo waa halkaa weeye niyow wallaahi halkaasaan ugu jeclaa laakiin haddaan isdhaahdo maanta meel kale aad qabataa waxay ahaan lahayd Kilimanjaro buras fuulahayd aad iyo aad waxa waa buuraha adiga aad iyo aad magaalada Dar es Salaam baan tegi lahaaye iyo maxay ahayd magaalada loo dalxiis tegi jiray ee magaca lahayd aad iyo aad cabdinuur shacibnoo ku salaamaya markii aad macluumaadda ahayd magaalooyinka aad u jeclaan jirtay inaad safarka ciyaaraha ugu baxdo markaad kooxda waday teebay ahayd garoonka ugu jecel kusoo ciyaarto maxamed oo horta waynu ilownaye soo ma ogidaan hargeysa xitaa ka soo ciyaaray hadda iminka sheeg garoonka ugu jeclayd garoonkii traininka iyo garoomada dee anigu mar walba waxaan jeclaa dee garoon weyn oo lagu ciyaaro inkastoo waqtigii dee ay garoomadu isku wada ekaayeen oo aan isdhaahdo garoonka lagu ciyaari karaa wuxuu ahaa garoonkaygu ahaa dee garoonkayga sheekunba ugu weynaa marka safar baxdo tusaale ahaan safar ciyaarada u baxdo meesha jeclaan jirtay ku ciyaartay aad uga heli jirtay iyo berberade waayo berberi waxay ahayd waxaanu nahay milixdii baanu nahayno taageerayaasha tarabuunku wuxuu ahaan jiray bismillaahi raxmaan ciyaartuna hadday taageero hesho eedhe nama kala bixi jira maxamed oo dee berberaa aad iyo aad rashido fankiyo sugaanta isku tihiin wallaahi maxamedow kuwa mar baan khadrad daahir noqon gaadhay laakiin waan ka ducaystay oo ilaahay baan dee uga toobad keeno waxaan idhay waqti baa markan maxamedow aan guriga haddaan waagu markuu baryo afkastaan u kala qaaday heesba gabalka igu dhici jiray laakiin maalmaha ka mudun baan istihaadad u taagan baan maxamedow ka ducaysto maalintii bay igu dambeysay bal waaya caawa maadaama barnaamijkii uu yahay dhaxal reeb asxaabtii ciyaarahan uu wada caweyn waqti wada qaadanayno waynu yaro joogaynaaye bal aad nagala qayb qaadatide bal caawa maxaad kala qayb qaadanaysa bal hal hees horta noogu fur bal horta hal heesoo naxasuusi waa la iskaadaya maxamed oo wada anigu barnaamijka taasaan ku jira miyaanu ciyaari horta kusii socon doon waxaan doonayaa taariikhda magaalada shiiqi ciyaaraheed way ii dambaysaa hobbieskan ka baxaynaa taariikhda iyo fikirada iyo talooyinka waxaasoo dhan way ii dambeeya laakiin hobbieskaan ka baxaynaa iyo de kolley program kulaynu ku jirna laakiin hees dardaaran ahoo khatrad daahir leedahay bal soo daa waxaan horta aad u jecelahay oo dee aad u jeclaan jiray
حسن هذا سمطرية خضرة ظاهرة وحويا وأفر بيت يسود صح معنا ويكون فديانو هيسي معنا لهاي مقداسة ضيتهم ما يهين مهم. mana dhageystay ugun baan dhegeysan jiray waqtiyadiidaan dhegeysan jiray imika ma dhegeyste marka waxay ka sheekaynayaan adduunka iyo cimilada iyo nolosha isbeddelkeeda iyo waxyaabaha noocaasa iyo صح qoysaska صح qolooyinkan kale waxay anigu intii dee waqtiyadan ka ducaysteen way soo baxeen marka hadday dee arrintaa yar tahay heestaa dardaarna khadra daahir ayay ahayd oo 3-4 jeer bay isbeddelaysaa أي سوداء marka waxay odhanaysaa dardaarankuwa sida wayney dugiyo dhaxal weeye hadhaa hasiidaynay maqal dabkii wa hore ku gubay dambaska waa laga guraa haddaa dib ugu joogsatana adiyo doqoninada danteedana ila dhamii midaadana yaan la dayin wuxuu isla doonayiyo wuxuu kula dabacsan yahay ruuxii ay kala dukaan dadaalkaad saaratana ilaa doqonkii aan siray xumaan baa lagu dayaa dunidu waa wada mushkilaad dadkuna waa noocyo badan dadkuna dulqaad iyo samir lahow wixii kugu sii durkeeye dayaay fulihii yidhaa xumaan ba lagu dayaa haddaad isku daawatana adiyo doqoninada reerkaaga degenaansha iyo dulqaad baa lagu dhaqa haddii dembi uu dhacanaa degaha waa laga dhigtaa haddaad se ku dayo tirado qoyskiina halkaa ku tumo adiyo doqoninada intaasaan kasoo qaatay aad bal xasaadan baad xustay inaad isagana jeclayd heesiisa bal xasaadan isagana boqorkii runtii lagu jeclaa waa waqtiyadaas ugu heesaa fiicnaa bal isagana hal heesto xasaadana daniyow barnaamijka wadala gaadhay xasaada samatar isaguna hadii jeeraale wuxuu ka sheekeeyaa maxaa dhahdaye wuxuu ka sheekeeyaa cimilada iyo dhacdooyinka iyo sida uu waqtiyadiisu badbedelaan صح marka isagana waxaa ka mid ahayd heesihiisa bal haddaan mid soo xasuusto waxaa ka mid ahayd heesta haddaan de malaa bartankan ka qaadaye waxay ahayd halaalaxdiyo muuqiindu waxay haysteen iyo xooggiisii ka soo baxay halbaarkeed shucaacuu higsanayay maaday hortaagnaa igana udgoonkan aqalka ula sara kacay batimahal handage arbsaday daruurtiyo dabaylaha hedamaye igila madiguwa hadba had kici haybadaadu noqotay ee hodan baad ka tahay qurux hadba had kici haybadaadu noqotay ee hodan baad ka tahay qurux amana watan wiladhan yilistana nasiibkay xasaadanna waa kaa xasaadan baabad khatar ku tahay rashiido haa maan ka soconaa mise mid kaloo xasaadana maya bilaa cale mid kaloo xasaadana noo baadh mid kale xasan oniyo dee maxaan baadha ma garanayo iga kala lumeno wixii de markan iska daayey way lumeeno ama tubec xasan aadan samatar wuxuu lahaa sida meel barwaaqaa
sida meel barwaaqa oo buura dhaadheer webi baan marayo barbarkana daruuru kaga beegan yiino waaguna baryaayo berdii magooliyo ubaxii gadal baxay balanbaalis qalin maleed balanbaalis qalin maleed balanbaalis qalin maleed balanbaalis qalin maleed had ballaanka boodaay had ballaanku boodaa ayani bidha gacaylka beertow bilicdad waxirtahay hawdiyo bannaano bashu nabad barisada barqinaysa maalko ay beri samaatay alintiyo barbaartuna dhaantiyo balooli daawadayaashu waxay leeyihiin khadar daahir xabad khadar daahir nagu celi daawadayaasha idhi miya dee maad iga daysaan dhacaawo waxaan ahaa un sportiska soo fadhiistay xabad khadaraad ku celi markaan ka soconayna xabad khadra daahira xabad khadra daahira waxay ahayd يوم حيل تختار الظاهر والله بس واحد حساسيه دي انكم قولوا انك هتضرب خضر دايره يا ها صح حساسيه دي تي ورا كل كل انت ورا بدر دارنكي يا كان شاندي اسلا هيست ولا كل ها دردارنكم واحد يعني waxaan idaw garanaynin muusigna ma jiro oo baalka ma jecel laakiin afar jeer bay isbedelaysaa dhageystadii way dhageystay hadday sportis tahay haddii nin xaasle ay tahay gabadha xaasle hadday tahay waa dardaaran weeye marka dardaarankaa si fiican u dhageysta aad iyo aad dardaaranku waa sida wayne dugiyo dhaxal weeye hadha xasiidaynay maqlaay dabkii waa hore ku gubay dambaska waa laga guraa haddaad dib ugu joogsatana adiyo doqoninada reerkaaga degenaanshayo dulqaad baa lagu dhaqa haddii dambi u dhacanhaa indhaha waa laga detaa marka hore dhegaha ladhi haddii dambi u dhacanhaa indhaha waa laga detaa haddii aad si ku dayo tirado qoyskiina halkaa ku dumo adiyo doqoninada dantaydana ina dhamee midaadan ayaan la dayn wuxuu isla doonayiyo wuxuu kula damacsan yahay ruuxii ay kala durkaan dadaalkaad saaratana ilaa doqonkiiya siray xumaanba lagu dayaa dunidu waa wada mishkilaad dadkuna waa noocyo badan dadkuna dulqaadiya sane wixii kugu sii durkee dayaay fulihii yidhaa xumaan ba lagu dayaadad isku daawatana adiyo doqoninada aad iyo aad taageeradaawadayaasha waxaan leenahay deerashada waa taas dadkii khadar daahir bay dee kumoodino isha sacabka mari iyo waxbay soo qorayaan god cordame iyo wax noocaasa dib baan u dhigananaa ya waan ka soconaynaa rashiida waxaanu nimi qaybtii barnaamijka isha sacabka mari noo qaad dadka isha sacabka mari ka dhigtay yo ku dhicin ilmadu dhulabaarsatee isha sacabka mari rashiida hore aan ugu soconaynaa
kama gaadhno heesaha waa dumaashadii qofta codsatay waa xaaskii xasan maxamed gulid xasan roodhi nimco aadan wey aad baan ku salaamayna dumaashi sharaf rashida waxaan ku soconnaa barnaamijka qaybtiisii ugu dambeysay runtii aan laba kala qaadayno runtii talabixinta dib aan u dambaysinaa guud bal runtii waxaan jeclay inaad dul istaagto degmadii sheekh ciyaaraheedii sida wax yihiin xidhiidhka degmada sheekh iyo degmadii berbera baryahan dambe muu fiicnayn runtii oo cabashooyin badan baa iska jiray cabashooyinka runtii xoogaal baad si fiican ugu tahay bal markaad cabashooyinkaana aan ku noqonayn sida wax u jiraan oo ka dheregsan bal hal cabasho oo muhiim ah oo aad xaq u leeyihiin reer sheekh inaad runtii waxaan jecelahay la wadaagta anaga daawadayaasha kadibna xalka waxa uu noqonayana idana runtii aad noo raacay tirada xal waxaan u arkaa bal sida maadaama aad runtii barnaamijka qaybta hore ku sheegtay inay jiraan cabashooyin badan taageero la'aan xagga wasaaradda guud iyo xidhiidhkii mushahar la'aan sidaad sheegtay guddoomiyaha degmada aanu jirin garsoor oon jirin wax badan baad sheegtay degmadii oo cabashooyina bal cabashooyinkaas aad sheegtay adoo soo koobaya iyo bal xalku siduu noqon karo runtii maadaama meeshii aad tiri 12 kooxood C iyo B iyo A baa jira waxay u baahan yihiin dee runtii in wasaaraddu dhinac u furto oo runtii ay garab helaan maadaama ka mid yihiin dhalinyarada dalka ku nool bal taladaada iyo runtii xalku waxa uu yahay iyadoo runtii noo raacay maxamed walaalo waa si fiican waa inta ugu barnaamijka dee inkastoo barnaamijkeenu wada qiimo lahaa maasha allah heesun baad igu gaaday walaalo waa run degmadaydii aan walaalo kusoo tabcay qofku wuxuu jecel yahay wuxuu kusoo tabcaa inay hana qaadaan صح diyaar baan u ahay laakiin walaalo maxamed waxa naga maqan oo magaaladii ay tabaysaa oo ka maqan oo xaqiiqdu ay tahay sidaan maxamed oo kuu soo sheegay halka magaaladii berbera garsoorku uu qaadanayo mushahar iyaguba waa mas-uuliyiin mas-uuliyiinta kale hadday xidhiir tahay haddii ay dee wasaaraddii oo dhan tahay ay mushahar u qoran yihiin guna u qoran tahay annaga degmadii sheekh oo kubadda ciyaaraha aan aasaasay dabayaaqadii 1997 aynu maantana ku jirno 2021 waxaan u arkayaa nusqaan aad u weyn in aan mushahar la qaadanin 9 sannadood baan maxamedow ku shaqaynaya frontier caqabado fara badan ayaa igala soo kulmay dabayaaqadii 2 sannadood oo ugu dambeeyey baa mushaharka aniga lay bilaabay waxaanu weliba maxamedow gobonnimo ku sidannaa gobonnimo waxaanu ku sidannaa oo aan meel laga soo helaynin mushaharkaygii aniga waxa la wareegay waqtigaa marxuumkii dhintay axmed nuur xuseen ciid mar labaad aynu u ducayno in ilaahay jannooyinkiisa ka waraabiyo subxaana wa tacaala waxay guddoomiyeyaashii iga dambeeyey oo halkan ka xusayo axmed naasir axmed yare oo isaga marxuumkaa bedelay iyo diiriye cabdi diiriye oo iminka ah inaan labadood midkoodna aanay mushaharkii ka qaadin xaaskii marxuumka marxuumkii xaaskiisii uu mushaharkii anigu aan uga yimi isaguna uu lahaa uu qaato halkaasaa degmada dhan marka laga soo bilaabo 1997 oo maanta 21 marayno halkaa mushahar oo muddo dheer ka bacdi yimi ayaa walaa 2000 muddooyinkii 2000 dheeraadkii ayuu mushaharkaasi yimi ayaa walaa hortay magaalada dhan sportskeeda wuxuu ah waa magaalo jirta waa magaalo sportskeeda la wada yaqaan hargeysa berbera burco iyo inta kale ee maqalka ku maqashayba way yaqaanin degmo sports ahaan u dhisan caqli ahaan u dhisan maskax ahaan u dhisan laakiin mushkiladda ugu weyn ee na haysataa waxa weeye degmada iyo sportskeeda haysataa kow in badan maxamedow waxaa la yidhi nin aan hadlin habarti wax ma siiso waanu hadallay nooc walba waanu u dhignay nooc walba waanu ashkatoonnay maxamedow hadal wanaagsan waana laga baxana hadal xuna lama yidhaahdo laakiin ilaa xata al'aan cid maalinkaa maanta inta sheekh timi xitaa wasaaraddaa timi iminka sidaan maalmo dhaweyto waxa yimi cabdirashiid intii aan gaasimaha guud laga dhigi wuu yimi inanka cusube xidhiirka kubadda cagta loo magacaabay wuu yimi de isaga iskabadda hadalkiisa isuduwaha gobolka shaafici jaamac aadan way wada joogeen waxa laga wada cabanaya ardaydaasi ka cabanayaan sportiskaasi in aanay haba yaraatee dhaqaale gobolka ay uga siman yihiin maadaama degmadii labaad ee gobolka ay tahay waxay berberi hesho sheekh ma hesho
zero bay ka taagan tahay zero berber waxayna kaga fiican tahay oon dee ugu hambalyaynayaa waa degmadii dee dhaqaalaha somaliland oo dhan bay kaga horreysaa waqtigeennii dee sidaa umay jirin waa maadaama dee aad wax yar oo guna yar aa qaadan jirteen laakiin maanta dee tiimka dekadda u ciyaara waad og tahay dhaqaalihiisa tiimka dowladda hoose u ciyaara waa taqaana dhaqaalihiisa ka kastamka hadalkiisa daa ka qaadka u ciyaara hadalkiisa ayuu ka wakaaladda biyaha yacni dakhliga berberes ciyaartooygeeda soo galaa waa you can imagine weeyaan yani ciyaartooy kasta mushahar buu leeyahay koox kastoo meel u ciyaaraysa mushahar bay leedahay sheekhna hadalkeeda daa markaa walaalo waxaan leeyahay wasaaraddu ha u sinaato waayo inanka sheekh ka ciyaara guusha uu soo hooye berbere uu soo hooyey wayar sidee aan kaa dhex galay marka caqabadahaas marka jiraan xagga dhaqaalihi xaggiina arrimahaas wasaaradda xidhiidhkii maxaad xalka warka lahayd oran lahayd sidaas ayay xalku noqon lahaayoo macquulna ah xalka walaalo waa socda maxamed oo xalku waxa weeye horta number 1 waa in la fahmaa sheekhu halkay ku taalaa yaa ka mas'uula yaa u mas'uula yay hoos timaadaa yaa grade sare ee haysta maamulka sportiska haddii dhibaata ka dhacdo hadday dheregsantii hadday gaajanayso waa ayo qofka lagala xisaabtamaya waa ayo qofka xaqeeda u doonaya horta waa intaa la isla fahmaa number 1 taa marka la isla fahmo oo la garto waa in la fahmaa sheekh waxay xaq u leedahay in loo sii daayo ay xaq u leedahay ta saddexaad ee xalkaan u arkaya waxa weeye dadka berbera baayac mushtarka ka ahi sheekhuna way ka yimaadeen oo sheekh baayac mushtarkeeda ugu dadka tujaarta ahi berberay ka shaqeeyaan in maxamedow xalka waxaan u arkaa sheekh waxay xaq u leedahay oo hadday qalab sportis tahay iyo hadday mushaar tahay iyo hadday guna tahayba ay berberi siiso xaltaasaa noqonaysa waxa kale iyadoo aan jeclayn ku weydiiyo sheekh waxaa jira waxay leeyihin golo deegaan oo iyaga gudahooda ah bay leeyihin degmada sheekha dhaqaalahooda iska yaraasaan xusnay waxaa iyadana jirta xildhibaano golaha deegaanka degmada berbera iyaguna fadhiya oo runtii dee sheekh laga soo doorto oo sheekh codka u tago dee sheekh ka soo jeeda xildhibaanadaas iyagu doorkooda waa nooc iyagu door inay qaataan oo u hadlaan maadaama dhalinyarada dee markii ololaha ku jiraan ba ay u tegayeen xitaa koob iyo jaayisada geenayeen dareysyo waqtiyadan kale ee duruufaha noocana jiraan doorkooda inay qaataan iyaga fariin uma diraysid sabab yani maxamedow marka halkan oo kale la fadhiyo wax ummaduna ka faa'iidaysato dadkuna dareenkooda iyagu ku jira markaa iyo oo dee waxa la yidhahda tare qofku waxa uu doonaya laakiin wax u qaado oo meel gaadhsiiya baanu haynin sax baan kaaga mahad celinaya walaal su'aalahaad weydiinayso laba golaa jiray waqtiga iyagii waa golahan cusub sax golana waa golihii hore horta golihii hore halkan waxaan uga mahad celinayaa maayarkii hore ee tegey maayarkaasi wuxuu ahaa maayarkii aniga beerolka wasaaradda dhalinyarada ciyaara iyadoo liigu hortaagayo gobolku igu hortaaganya igu daray ayuu ahaa raan cabdillaahi cabsiye waa xubintaa iminka qaadataa ninkii ansixiyey buu ahaa aniga wasiirkusa ayaga fadhiisiiyey laygu hortaagayahay sax wixii ka dambeeyey dee inay awoodaan sidaad og tahay degmada sheekhna meel dhaqaale ka soo gala ma jirto wixii kale awoodi jireen shidaalkaas sidaan kuu sheegay naga soo bixin jireen way jiraan halkan aan ka xusayaa nin isagu aad iyo aad iyo aad aan halkan uga mahad celinayo oo ku xidhan guddoomiyaha waxbarashada degmada xaaji maxamed xaaji ibraahim xaaji cabdillaahi guddoomiyaha waxbarashada oo ciyaartoyga aan ka dhex bixin oo ku xidhan oo waxay uga baahdaan dhaqaalaha uga baahdaan isagoo aan haamay ka gelin halka ay gelayaanna la gala aad baan uga salaamayaa aan u soo noqday golahan deegaankeenu ka cusuban yihin maxamedow waa gole aad ugu soo jeeda nin dhallinyaraa baa qabsaday maayarka halkan aan ka salaamayaa nin ay u geli karayaan oo la dhiilgaraynayaan baa jira walow taa horeba ninka cabdi cartan xaaji abukor la yidhahdaa uu dee nin u furan ahaayo dee uu ciyaaraha nin dee u furan oo noo furan uu ahaa haddana awoodi meelay gaadhsiisaba ismaan odhan jirin waxbay ka dhexisiinayaan nimankaas awood aan dee dhaqaale aan jirin bay ahayd oo ilaa imika dhaqaale ma jiro laakiin nimankan imika qabsaday si fiican bay isugu xidhan yihiin meel walbana way la gelayaan maasha allah way garab taagan yihiin meel fiicanna way gaadhsiin doonaan
nimanka berbera sheekh baan ee berbera jooga ogamayno dhulbaan kuu sheegaya horaysiya dambayso doona wax aan ku idhaahdo waa laga mahad sheeganayaa ama way ku casuumeen ciyaartooyga berbera intay yimaadeen bay yidhahdeen waa ciyaartooyga sheekh bay ka yimaadeen ku casuumeen may jirin imikana ma jirto dee ma garanayo siday uga hoostay inay dareemaanna way qurux badan tahay runtii xildhibaano badan baa fadhiya 13 xildhibaan I think horta 5 anaa hubaba 5 hadii la deegaanaan kasoo jeeda degmada sheekh anaa huba oo og runtii qaar kale way jiraan waxaan jecelahay inay runtii ka jawaabaan oo xilliga codkoodii aan magaranaysa dhalinyarada la sheeganine waqtiga dhalinyarada garabka u baahan yahay runtii waxaan jecelahay inay garab istaagaan rashido intaanaan ka dul tegin bal degmadii sheekh runtii waqtiyada ugu dambeysay oo dhan waan ka warhaynaa sida aad sheegtay inta iminka aad sheegtay soo jeedintaas iyo xalka isaad u aragto ayaan runtii ku daynaynaa haddii ilaahay idhaahdo runtii waxaana dee ay kaaga mahadnaqaan dhalinyarada degmada sheekh iyo guud ahaan gobolkuba in ilaa hadda adigoo wadankii ka yimi haddana aad involved ku tahay oo aad weli ku xidhan tahay oo weli aad xoogaal u tahay taasa runtii aad baanu guud ahaan ay kaaga mahadnaqaynaa aniga qudheeda degmada sheekh ciyaartooygooda way soo dhaleeceen waxay dhahaan barnaamijka dhaxareeb degmada sheekh cid kama soo marti qaado halkan waxaan iyagana fariin uga farayaa inaan mar walba barnaamijku idiin furan yahay ciyaartooyga waaweyn ee degmada kasoo jeedaan xusay anytime iyagana waan soo dhaweynaya insha allah taariikhdooda iyo taladooda iyo iyagana waa loo baahan yahay mar walba barnaamijku uu furan yahay sheekh runtii aad baan u jecelahay aniga qudheedu waxaan ahay reer sheekh waan ahay magaalada dreamkayga ah ee aan jecela noloshayda dambe inaan ku noolaadana weeyaan rashido guud ahaan haddaba waa maxay talada guud ee aad inagoo gabagabadii barnaamijka marayna guud ahaan dhalinyarada somaliland ciyaarahoo dhan oo dhalinyaradaadiya aad siinayso waa maxay iyadana talada guud ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo xidhiirkii isku jira iyagana aad siinayso adoo kala horreysiinaya keed ku horreynaysaa dhalinyarada mise waxaan ka horeynayaa dhalinyaradan ka horreynaya laakiin qodob baan ka horreysiinaya maxamedow u soco qodobka ka horreysiinaya waxa weeye waxaan doonayaa inta aan soo tiriyey ee berbera hadday customka tahay iyo hadday dekada tahay iyo hadday dawladda hoose tahay iyo hadday wakaaladda biyaha tahay iyo hadday DP World tahay iyo baayac mushtarka magaalada berbera waxaan leeyahay sheekh waa qayb ka mida berbera waa degmadii koobaad iyo degmadii labaad bay isu yihiin labada ciyaartooy ee u ciyaarayaana meel bay isugu imanayaan ciyaaraha gobollada isugu imanayaan oo halkaasay magaalada gobolka uga halgamayaan ciyaartooy ay idin ciyaarayaan koox idin ciyaarayso berbera ay koox sheekhna ku lamaanaya waayo dakhligeedu u haysaan waa helaysaan iyagoo halkooda jooga oo ka kalaymad wanaagsan berbera oo nimankaasi active ay noqon karaan hadday maanta helaan encourage fara badan oo xag qalab sportis ah xag dhaqaale ah waxaan ogahay gobolka saaxil ciyaartooyga ka soo baxaa degmada sheekh inay caalamka la tartami doonaan waayo hawadii bay haystaan kalaamadkii bay haystaan haddii la dhiirigeliyo dhiirigelinta laga helo weliba waan ku adkaynayaa inay hadalkaygaa qaataan oo hadalkaygaasi uu galo oo ay inamada caawiyaan oo tiimka dekada u ciyaara tiim sheekh u ciyaarana ay dhaqaalaha siiyaan ka wakaaladda biyaha u ciyaarana tiim wakaaladda biyaha oo sheekhana ay siiyaan dhaqaalaha way ku xisaabtamaan way magacyadooda ugu ciyaaraan oo dhaqaalaha hadhowtoo dhaqaalahooda iyaga hadday markaa fahmi doonaan cid siinayaan taasi waa qodobka ayaga intaasaan ku dhiirigelinayaa qodobka aan dul taagan fariinta aad fartay runtii aad gudbisay iyadoo fariin muhiim ay tahay haddana sawiyadana doorkeedii ma aha inay qaataan runtii dhalinyarada sheekh ee maanta haldoorka ahi sida adiguba doorkaaga aad u qaadanaysay oo waxa weeye iyaguna ay soo istaagaan albaab walba ay garaacaan oo dhahaan waxaan xaqayga ma u baahnay waxaan u baahnay oo ay hadlaan ilaa qofna ma dul istaagaye oo iyaguna sida adiguba dee aad meel walba soo istaagaysay aad adigoo aan mushaar xitaa lahayn mushaarka doonatay aad gudoomiyaha degmada soo qaadatay hawsha waday soo maaha iyaguna doorkooda inay qaataanoo iyaguna ay iskeenan dhahaan ay dhahaan anaguna waxaan u baahanay sidan baanu nahay degmadanu ka dhisannahay gobolkaanu ka jirnaa ciyaartooyga maana intan baanu nahay dee xuquuqdeedii innagana hoos loo eegaan rabnaa meana albaab walba inay garaacan ahayn ilaa inta lagu tago sheekh lama odhanayo mushahar baa laydin qoray sidan baa laydin yeelay doorkooda iyaguna ha qaato kuwanna sidaa aad sheegtay iyaguna runtii inay sidaa isugu lamaaneeyaan oo runtii kooxda dhiibuwala kale maadaama ay tahay meel dhaqaalo badan ay tahay inay degmadii sheekhna maadaama meeshiis laysla yahay
inaguna doorkooda wixii ay ku kabi karaan ciyaartooyga degmada sheekh ay ku kabaan oo koox ka sameeyaan ciyaartooyga degmada sheekhna da ay ismuujiyaan oo iskeenaan soo taas sida doorkoodana qaataan maaha absolute maxamedow waa qodob aad u muhiimsan oo waxa weeyaan imika arrintaa waanu ka wada hadalay nimankii ciyaartahan ugu horreeyay ee maanta nimankan ku wada sheegaya ee wada mutacallinka ee wada jineerka ee wada macallinka inay horgalaan oo horgal u noqdaan oo ay albaab waayo waad ogtahay madaxdeena si fudud laguma helo waxaan doonaynaa in aanu de magaaladii berbera marka la yimaado in albaabkii de la garaacayay si fudud loo furo weliba halkan waxaan doonayaa si toosa inaan ugala hadlo nin u soo jeeda iminka sportiska berbera mahdi ilaahay uu keenay weeyadii cabdishakuur cidin waa nin maanta u soo jeeda sportiska berbera wax kasto ay u baahan yihiin waad arkaysaa imka koobka lagu qaban doono inuu garoonkiisii dhisayo waxay ku tusaysaa in uu yahay nin u soo jeeda haddii uu helayo cid arrintaa uu doonayo wax ka midha dhalaya cabdishakuurna halkan farriin baan uga furay waxaan leeyahay cabdishakuurow way kuu imanayaan sportiska degmada sheekh waanay kula fadhiisanayaan wejigoodana waad ka arki doontaa albaab walbana la garaac meel walbana inay noo furaato arrintaasna waa dhab sportiskii anigu aan gacantayda ku soo tababaray ee aan caalamka isbarnay nimankaasi inay hormuud u noqdaan oo ay nimankaa kaxeeyaan oo ay degmadu soo kor ugu soo qaadato aad iyo aad ku soco markaa labadii qodob ee ahaa tala bixintii guud ee runtii wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo dhalinyarada laftooda aad ti dhalinyarada horreysiinaya ku soco dhalinyarada haddaan qodobkooda ugu horreeya ku bilaabo waxaan odhanayaa horta sportiska markaad maqasho fair play markaad maqasho qabiil waxa la yidhahdaa waa ka mamnuuc ninkii qabiil ku xisaabtamayow ilaah baan kugu dhaarshay ciyaarha soo geli waayo ciyaartu qabiil ma taqaano cagtaadana waxay ku barto ayuunbaa meesha yimaadaa akhlaaqdu waa laba marka doonaysa inaad ciyaartoy noqoto inaad qabiil iyo cay banaanka kaga timaado sida dharkaada uskagaa isaga bedesho waa uskag inaad uskagaa dibadda kaga timaado dabeedna aad dhar nadiifa soo xidhato taasi waa dardaarankayga ugu horreeya ciyaartoy ma noqon doontid ma adkaan doontid famos ma noqon doontid haddii aad noqoto qof caytama iyo qof qabiil ku xisaabsan hanaa ku talagelin haddii ay cagtaadu ku soo saari weydo inaad tirahdo ninaan ahay baa lay reebay way jirtaa oo way ka dhex dhacdaa mas-uuliyiinta sportiska dhexdooda ka dhacdaa anigu waxyaabahan anigu ageenska ka aabanaha maxamed wixii ii furnaa aniga wuxuu ahaa inaan qof walba cagtiisa ku qaato meeshuu doonaha ka yimaado cagtiisa inaan ku qaato in role model baan ahaa in laygaga daydo waxaan jecelahay in qofka ninka mas-uulka ah aanu cidna cid uga soo eexaysan inankiisa hadduu inankiisu ciyaarayo oo inankiisa inan ka ciyaar wanaagsan oo ka boy position qaadan wanaagsan hadduu yimaado waa inuu inankiisa bigiinka fadhiisiyo si loogu soo dhiirdo ciyaaraha dhalinyarada waxaan leeyahay akhlaaq baa lagu yimaadaa sportiska akhlaaqdii haddii aanad lahayn fadlan gurigiina iska fadhi iimaan iyo akhlaaq kale dhalinyarada intaasaan leeyahay waxaana weliba leeyaanu raacinayaa dalbarashada iyo dadbarashada iyo famoska waxa lagu noqdaa marka cid wal oo bini aadamka ka mid aad la kulanto qofkaa weyn iyo qofkaa yar iyo qof kula daa rag iyo dumarba inaad xidhiir la samayso oo aad waraysato ood la fadhiisato ood experience-ka wax ka weydiiso marka aad doonayso wasaaradda kaale iyo xidhiirkii wasaaradda iyo xidhiirka waxaan leeyahay waqti cusub baynu ku jirnaa 2021 qarnigii 21aad baynu ku jirnaa ma aha inaynu taagnaano halkii aynu ka soo bilowno mana aha inaynu ka dhiganno yacni marxaladaynu soo marnay marxaladii waynu ka baxnay maanta wax walbaaba waxay noqdeen technical bay noqdeen oo technical wax walba dunida loogu soo bandhigaa wasaaraddu roolka ay leedahay ay u shaqaynaysaa waxa weeye inay isbarto dhalinyarada sportiska iyo caalamka inay isbarto wax fara badan oo hoos u dhaca baa ka muuqda wasaaradda anigu aan ogahay marka aad doonayso in waxaagu ay haruu maraan waxa la sameeyaa integration dhexgalka ayaad la samaynaysaa wasiirada la keenayo iyo agaasimayaasha la keenayo iyo dadka la keenaya waa inay ahaadaan dad caalamka ku xidhmi kara oo la sheekaysan kara qofka waayo adduunka de waa la isku xidhmaa marka haddii aanad hay-adahan dollariska ee wax bixiya aanad maasijyadaada u dirin
oo aanay jirin dad active oo intay internetka galaan qaybaha sportska gala dabadeedna la sheergareeyo sportsyada si ay dhaqaale fara badan uga helaan yani wasaaradda waxaan iyo xidhiidhka waxaanan taasi waa ta guud ta dhexda wasaaraddu inay dhex u ahaato gobolada wasaaraddu inay maamul daajidsiin samayso oo ay samaystaan rag la yidhaahdo monitoring and evaluation waayo wax walbaaba xil bay u saaran yihiin maaha agaasimo guud iyo agaasimo waaxid in la sameeyo maaha monitoring and evaluation waa in la sameeyo dadka dabagalka samaynaya waxay soo ogaanayaan dadka quality-ga leh iyo magaalada inta waxeedii la qaado waxeedii maqan yihiin degmo ha ahaato gobol ha ahaato yani cidna dee anugu male laakiin si guud ahaan baan ula hadlaya wasaaraddu waa inay samaysaa xubintii monitoring evaluationka dhaqaalaha wasaaradda laga qaadaa sidii looga qaaday iyo halkii loogu talagalay inuu gaadho waa inay wasaaradda dabagal fara badan samaysaa oo fadhiga ka kacdaa wasaaradda jamhuuriyadda somaliland ee dhallinyaradii ciyaaruhu waa fadhiid waa inay fadhiga ka kacdo waa in ay samayso active fara badan aad iyo aad rashiiday anoo tixgelinaya fikirkaaga laakiin hadda waqtiyadan dambe sanadkii inka ugu dambeeya dhammaaday ilaa sanadkan hadda way iska jiri karaan dhaliil laakiin ma la odhan karaa iyaga ku dhow dadaal badan uu ka muuqdaa runtii tamartooduba ha yaraato oo hadda ciyaari dhaqdhaqaaq fiican way sameeyeen waan dhihi karnaa oon ku ammaani karnaa dhanka kale marka la eego soo jeedintaada ah inay wasaaraddu xidhiidhka runtii debadaha inay xoojiso si ay ciyaartooyga bannaanka uga soo ciyaari karaan wadamada jaarka kale taa aad baan usoo dhawanaya laakiin meynaan ku ammaani karin inay wax badan oo ay qabteen oo wanaagsan jiraan sanadkan hadda ugu dambeysay haddii ciyaari gobollada ay qabteen horyaaladii dalka ay qabteen runtii iminka waxay qaban doonaan insha allah championka waa la qaban doonaa magaalada baran lagu qaban doonaa waxaasoo dhan soomaha in runtii lagu ammaano aad iyo aad wax wada xumi ma jiraan laakiin de waxaan sheegayaa un waa gudbinta taa laftigeeda waxay soo hoos galaysaa inay cidi maqan tahay xidhiidhka la samaynayaa yaa u han weyn inay ka qayb galaan yaa hadhaaya yani waa in wax walba waa inaan monitoringaan sheegayo way ku ammaanan yihiin oo de waxay tugbata halkiibu rugmadaa laakiin maanta halkaan baynaan taagnaanin halkaynu taagnaan lahayn maaha wax hore loo wada bilaabaabay ahayd oo wasaaraddeenu ay ka madax bannaanaato dowladda ay ka madax bannaanaato waayo dee waa beya bilay weyn siyaasad shaqo kuma qabo waa inay wasaaraddu amar dowladda ku siisaa inay waxan iyadu xaq u leedahay oo ay samaynayso wasaaradduna markay active la timaado encourage dowladda waxay xaq u dhaway keenaysaa marka aad baan ugu ammaanaya wixii ay qabatay intaasina waa waxa fadhiga ka dhigay wasaaraddu indhaha shidato aad iyo aad rashiday runtii waan kaaga mahad celinayaa cabdinuur shacayb su-aal bal sooda cabdinuur su-aashaas intaanan cabdinuur shacayb baa la su-aal cabdinuur sooda su-aashaas fursaddaasaan ku siinayaa maadaama ciyaartooy runtii adiguna tahay hore bal soo daa su-aasha cabdinuur ba su-aashaas suganaa rashiday runtii waxa weeye waan kaaga mahad celinaya walaal waqtigaaga qaaliga aad soo siisay runta sidoo kale waxaan runtii aad u salaamaynaa guud ahaan dhalinyarada sportiga soomaaliyed meel kastoo jooganka ma xasuustaa mr maxamuud xuuto nacam si fiican adigu ku weydiiyey bal u sheeg ninkaas uu kuli ma xasuustaa xuuto maxamuud xuuto ma xasuustaa buu ku weydiiyey waan xasuustaa cabduna waa la xasuustaa rashiday waqtiga qaaliga kaga mahad celinaya barnaamijka intii aan ugu talagalay runtii iyo intii barnaamijka su-aalihii aan kugu talagalay inaan ku weydiiyo aniga xaggayga intaas iga egyahay intaanan barnaamijka soo afmeerin waxaan jecelahay inaan runtii ku weydiiyo haddii jirto wax aad jeclaan lahayd inaan ku weydiiyo oonan ku weydiinin oo intaanan barnaamijka soo afmeerin aad nala wadaagi lahayd maxamed waxaad weydiisay dee waa run walaalo waad wanaagsan tahay waxaad weydiisay taariikhdii dee kubadda anigu aan ku lahaa iyo aniga taariikhdaydii laakiin imaad weydiinin sheekh ma lahayd ciyaartoy kan ka horreeyey ma lahayd maxay se ciyaartoygeeda caan ku ahaayeen xilli muuse ciyaartoygeedu jiray imaad weydiin waayo taariikhda sheekh weeye waan jecel inaan ku weydiiyo oo aan runtii taariikhda waxaan ka hayo bal waxaad runtii noo gudmartaa waa runtaa bal degmada sheekh ciyaartoygii runtii waqtigii hore degmada sheekh waxay ka tirsanayd gobolka togdheer sida taariikhdu ahayd ciyaartoyga degmada sheekh kasoo baxaana gobolka togdheer ayay ciyaartoy ahaan runtii ka qaadan jirtay bal ciyaartoydii degmada sheekh ka soo baxay ee gobolka togdheer ka ciyaari jiray iyo magacyadoodii iyo bal waqtiyada kala ahaayeen haddaad taariikh ka hayso bal iyadana runtii intaanan barnaamijka soo afmeerin laga dabagee maxamed waad mahadsan tahay
maxamed oo ninka yarka iyo horeysay maalin baa waxa ii sheekeeyay nin ciyaartoydii hore uu daawanayay baan filayaa inuu daawado ka ahaa reer bucuraallaha iga ahaadaan ninku haddii kubadda ku dhaafto ninku yaanu ku dhaafin صح beertaasaa iyadoo hadalkaa la hadalhaya buu anaa midba ogaaya u soo taagnaa buu صح wuxuu waxa lagu ciyaarayay garoonka shiikh waxay leedahay laba garoon garoona wuxuu secondary-ga secondary dugsiga dhexuu dhexeeyay garoona dugsiga hoos u ahaa صح oo kan muhiim jirteen aan ku ciyaari jirnay buu garoonka markaa secondary-ga lagu ciyaarayay buu yidhi dabeedna wuxuu yidhi waxa markaa weerar ahaa nin aan halkan ka xusayo adna waad garanaysaa baan malaynayaa khayre cali cabdillaahi خير صح marka wuxuu yidhi khayra kubaddii la soo baxay kubaddii markuu la soo baxay ayuu difaacii burcow la yimi صح wuxuu difaaca burcow markaa wuxuu igu misalan anigu garanayaa nin la odhan jiray oo ciyaartoygii shaqka ka mid ahaa ee halkan ku jiro la yidhahdo cumar bayax xaaji muuse isna halkan aan ka salaamayaa ilaa aabihii baa ciyaartoy bayax xaaji muuse allah yarxamo marka wuxuu yidhi ninkaasu la miisaan ahaa buu yidhi adigu miyaad ka hambanaysaa buu yidhi ninkaa masaan ku dhumay awoodda iyo quwaddu leeyahay markaasaan ku dhumaya difaaca reer burcanad brobia noocaas uu yidhi dabeedna markaasaan ku dhumay khayre cabdi cabdillahina nin dhuuman buu dabeedna wuxuu yidhi khayraa la soo maray kubaddii markaa difaaci burcow jaray si allaale iyo si uga daba tegay mooye intuu khayre saa isugu dhuftay buu khayre sida shilinka isagoo isagoo buu garoonka ka baxay buu garoonka صح dabeedna daqiiqadiiba khayre halkiiba laga qaaday cumar bayax xaaji muuse oo taag ayaa lagu soo bedelay صح dabeedna wuxuu yidhi cumar baa uga jaray difaacii burco difaacii shafkiga weerarkii shafka waxa ku dhacay صح horta kubaddu halkaasay ahayd haddaan kusoo noqdo taariikhdii sheekh waxay soo bilaabatay marka dee anigu taariikhda sana hayo horta 72 waa la ciyaarayay sheekh raggii ciyaarayay waxaa ka mid ahaa maxamedow nin la yidhaahdo rashiid xasan faras iyaba ayaa ka mid ahaa محمد بقرني يا ولد محمد حسن فرس محمد بقرني ها صح شمت حسن فرس بو عيار جري صح عبد الحاج ابو قربا ريدا كشيكيي oo aan la fariistay oo aan waxaan doonayaa bal ciyaartoygii hore ee sheekh sida ahayd marka wuxuu yiri sheekh gobolka togdheer ba ka tirsanay cabdi artan wuxuu yiri idinku buu yiri iminka waa baryootamaysan oo inaad koob ka qayb gashaan uu yiri annaga fadhigana loogu iman jiray tan reer sheekhayn fadhiga yani awoodan ciyaar iyo wanaag halkan ka joogno cabdi artan wuxuu sheegay inuu 9 iyo 8 iyo 6 isaga ciyaari jiray hadba ku doono marka raggii haddaan xuso raggii ciyaari jiray ee gobolka togdheer ciyaari jiray waxaa ka mid ahaa cabdi cartan xaaji abukor oo aad garanayso oo ahaa mayor ku-xigeenkii hore ee degmada sheekh waxaa ka mid ahaa ilmo bayax xaaji muuse ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa allahuma salli calaa maxamed waxaa ka mid ahaa ilma حسن فرس ya ilma xasan faras ilma xasan faras baa ka mid ahaa ilma axmed khaawi baa ka mid ahaa oo ay kala ahaayeen cabdikhaaliq cabdiladiif waxaa ka mid ahaa xulbad baa ka mid ahaa desna reer babraa waxaa ka mid ahaa in la odhan jiray xasan shabeel allah yarxamo waxaa ka mid ahaa xogayaha dowladda hoose iminkana cali dheere waxaa ka mid ahaa nin la odhan jiray sulub waxaa ka mid ahaa nin la odhan jiray cabdisayid waxaa ka mid ahaa nin la odhan jiray dhammaan way badnaayeen si waa imika waan kala ilowsanahay laakiin wuxuu yidhi waxay rag taariikh kula baahay kubadda cagta weliba fadhigooda loogu iman jiray cabdi cartan wuxuu iga sheekeeyey markaan isteeledi ugu iman jiray wuxuu yidhi annagoo xalane ku jirnaa ayaa waxaa soo galay buu koobabkii goboladaa bilaabmay markii bilaabmeen baa wuxuu yidhi waxaa barasaabkii gobolka burco togdheer baa wuxuu la soo hadlay buu yidhi wasiirkii waxbarashada dabeedna wuxuu yidhi nimankaa oo dee reer shiikh u badnaa aanu reer shiikh baan wadahayn buu yidhi wuxuu yidhi nimankaa kama maaranno nimankaa waxaanu doonaynaa inaad noo soo fasaxdaan dabeedna wuxuu yidhi wasiirkii waxbarashaduna wuxuu warqad u qoray taliyihii ciidanka si uu jaamacadda nalooga soo fasaxo jaamacadda baa nalaga soo fasaxay diyaarad la odhan jiray maxaa la odhan jiray magaceeda focus wax noocaasa la odhan jiray loo saaray ayaa wuxuu yidhi intay naga soo qaaday muqdisho burcana keentay yacni ragga noocaasee lagu xisaabtamayaan nahayn buu yidhi dee raggii ka dhashay baa maxamed ow shiikh jooga hadalkan kuu soo gaabiye ragga waa lasoo doonan jira waa taa lasoo raadinaya kuwana bal iyagana ha isku dayan iyagana in lasoo raadiyo dee raggani waa raggaad ogeyd baa oo raggaad adigu qirayso ciyaartooda baa ku jiray
raggii rag ka dambeysay inoo jooga marka ragga ha la ogaada baan leeyahay aad baad u mahadsan tahay rashiidoy runtii waan kaaga mahad celinay waqtigaaga qaaliga ah daawadayaasha iyagana halkan jooga runtii iyagana aad baan uga mahad celinay waqtigaaga qaaliga barnaamijka dhaxreebna waa barnaamij u furan runtii inaanu ku ururno taariikhdii hore oo runtii ciyaartooyga isku bartaan kaydna runtii ay u noqoto taariikh kasta oo jirta waxaan iyagana bartan aad uga salaamayaa ciyaartooyga guud ahaan meel kastay joogaan ciyaartooyga hore degmada sheekh iyo kuwa hadda ciyaara ee degmada sheekh ku sugan waxaan jecelnahay inay xaqooda helaan baan ku baaqaynaa iyagana waxaan jecelnahay in iyaguna runtii ay raadsadaan wixii ka maqan oo ay fadhiga ka caanaanay mar walba runtii odhanin maxaa sidaan loo odhan waayey intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkii dhaxareeb tan iyo barnaamij ku xiga intaanu ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa anagoo isku aniga de yani cidda arrintii ugu dambeysay ee garoon ciddii soo geli lahay kooxdaa soo xaraynaysaa kooxdan soo xaraynaya bal waaya 11 ciyaartooy rashiidoy dream teamkii way waxaan isla hayadu de garoon may gelin ciyaartooy maaha laakiin asa macalin ahaan bal 11 ciyaartooy dream teamka ku noqon lahayd soo xulan lahayd garoon ku geli lahayd koob barta lagu soo dhigo aad waran lahaa rashiido koob bar ciyaaraysa final 11 ciyaartooy ku geli lahayd bal sheeg horta maxamed hasan kuu sheegay waa anigii kuu sheego anigii kuuri de nimankaas may kala dhacayno niman de walaalaabay ahaayeen laakiin waxaan doonayaa un aniga oo aan ka wada aniga oo aan haddaan de mid magacaabo kii bedelkiisaana waan magacaabay waa sidaan kuu sheegay maxamedow aniga 4 walaalina way wada ciyaareen 4 hadda waa halkan baan ku xusayaa ilmo maxamuud gahayr qaasim iyo maxamed iyo khabar iyo axmed afartan walaaliba way wada ciyaareen afartan ninba waxayna farnaan kala dhicin difaac iyo way halkan waxa ka salaamay ciyaartoydii runtii reer Borooradi ugu qaalisanaa sheekhu weynaaye sheekh Cali Warsame dhalay Xuseen sheekh Cali Warsame ayaa barta ka salaamaya ma sha Allah madaxa ay saarantiin wallahi reer Bucaad baan u jecelahay waa niman ficil leh waa niman dhiig leh maanta anagoo kaftamayno kubadda daawanayna ayuu mid heesaya soo galo markaasuu magacay reer Bucaad marka wuxuu ahaa inankaasi muqdisho ku yimid markaasuu yidhi reer Bucaad aad u jecelahay because maayaday soo qabtaan buu markiiba waxaan ku laakiin waxa kale reer Bucaad ku amaanayna ilaa hadda ciyaartooyda gobolka saaxil hal ciyaartooy bartaas soo galay rashiido si gaar ah u salaamay mid laakiin ciyaartooyga reer Bucaad dhami halkan ay si gaar ah kaga wada salaamayaan aad iyo aad madaxa ay saarantiin waan wada arkay barbariin ay soo gashay aniguna ciyaartooyga reer Bucaad madaxa ay saaran yihiin dhammaantiin waan isu kiin taagay ciyaartooyga gobolka saaxil berbera anigu aad baan u jecelahay waan wada salaamayaa dhammaantood aan si khaas ah u hambalyeynayno salaamayaan leeyahay hadniya jabina wali uu joognaa degmadayda quruxda badnayd ee sheekh maxamed oo haddaan ku hadal kusoo dhawaado nimanka faafreedkayga aan halkaas soo tubi lahaa gowlaha ka bilow golwalaha laba golwalaan lahaa sayid cali faruur halkana waan ka salaamayaa سعيد بن سوق لنا يا سلام برتين تاني تقولون واحد يسوون برتين سوا سلامي وما قاعد يرجع سكوا هرليا قول ولا إيش سوا مري قول كمرود شيح كوح الجودر سلام بوفن ومن وذا شوكتان إسناد بكو سلامي أنا ورجع سكوا كذا سلام كي قارسي بودي سلام تاون كقدوني سلام هذا بقول لك هذا قدوني ما شاء الله هذه بعد ما أنت هاي ريب البرون بمشي لقيت واحد قفت إن نحت على ريب البرون كسر قولك ما تري أنا وارد السلامة يا دل لكن يدوم وحويان قالوا راي وحنا يا سعيد محي سعيد عبد أحمد سعيد عبد هاي نمبر 2 وحي نقول يا حسين وحويان حسين ما اسمه الله ما وحويان واحد حسين علي وداد حسين علي وداد هي نمبر 3 waxa ii noqonaya waan saaraya number 3 waxaan saaraya Diriye Abdi Diriye هي لما sportska 4 waxaan saaraya aadan humbiye waxa weeyaan aadan baan saaraya 5 waxaan saaraya عقف نكي محمد عقف ليه نمبر 6 كوحن ساريا نمبر 6 كوحن ساريا
number 6 ka isaga waxaan soo saarayaa way kala maqan yihiin number 6 waxaan saarayaa waxaan saarayaa waxaan saarayaa number 6 ka waxaan saarayaa محمد عجل أما ما محمد عجل الحمد لله إيه كيسة محمد عجل الحمد لله ويا مرحوم كان صار لها دواء تجي مجازة سبلاير ها لكن بدل كيس وحى محمد عجل سيرس كوحن صار يا يسوقنا خضر محمود قاهر خضر محمود قاهر هي تضبع 7 كا تيشو إنك عبد الفتاح سديد كمحمد عجل سقال قولون على الليبان طبعا عيدروس قروف خوتون عبد الرحمن علي ديري عبد الرحمن علي احمد معلم هذيك معلم كرواني ها waxaan halkan jecelahay inaan aniguna waayagnimadaydii degmada sheekh aad uga faa'iidaysto oo dhalinyarada degmada sheekhday daawanayaan aan idhaahdo kubadda cagtu waxa weeye waa taariikh weeyaan iyo qiimeyn iyo respect iyo ixtiraam labada ciyaartooyda ay sheegtay rashiid ee sheekh jooga inta joogta sheekh ay guuleedii bay xoostay hadda iyo tishop guuleed waxaan jecelahay wax badan ka bartaan hadduu degmada sheekh joogo weeryahan professional ah waqtigiisii magaalada berbera runtii muu joogan weeryahan la kubada muu joogin waxaan jeclahay wax badan ka bartaan ciyaartooygaas runtii ay soo dhaweeyaan oo runtii ay garoomada marka ciyaarayaan ay ka faa'iideystaan kii qadka dhexe ka ciyaarana ciyaartooyga qadka dhexe ay ku xidhmaan inay wax ka faa'iideystaan aad baan u salaamaya guud ahaan ciyaartooygii waqtiga aan wada ciyaari jirnay meel kasta ay joogaan ba aad baan u salaamayaa rashiido waxaan filayaa hadda waan kala joognaa إلا حد ونسكو دايران محمد أو ساعد وحويان وطبنكي يا سقال مقصدية دقيقة وين ونسكو دايراني رنتي واحد بدل ما نقول هذا اللي دقمة هذه رنتي واحد وشيء يسا برامج كده حريم إنه فري هاي عن تايم أو كستا سود وين يو داو ريال وانكحنا وقتي أي رنتي إنه ساعد في الدوام هسه لكن بدل ما نفرني برامج كده حريم هو برامج كنوع عاسة بدقوا وانكو سلام يا ولا شيء وقيمة بعض يجارسي سلاقي بدل قدر حسن معلش أيات كو سلام يسا عاد بان إذن ولا سلام أنا نقول سكدوا بان عنيجي رشيدو يا هذه عاد بان تكو سلام يا ده خدراي أنا بس ها وكا أنا بتعاد بين نفسها كو سلامتي أنا وعاد بان كو سلامي يا ولي بس يدي قد بات يا دكتور ويا رشيدي سبحان الله يقصي ويا أكبر سلامنا دمانتين سلام أكبر سلامنا صاحب نقالي نقول هاي تاريخ بدأ عت قالي كوا وقت ونقول بريتر ومالين السنة ولا خلاص شقتك الدونا رشيدو إن شاء الله برنامج كلام نقول سو مرتقال الدونا وكيف على غندنا عيارها وقبر تاريخ العيارة كوسنتن runtii de intaasaan kaga tegina waana jecel in la sii joogo laakiin waqtiga noo saamaxaynin de habeen wanaagsan barnaamij la mid inta ku kulmino rashiida madax waxaad oranaysaa yeen halkaa lagaa soo jumin la caawade shan bad la carowde wallaahi rashiiday horta waxaan islahaa ka hadli maan islahaa arrinkaas rag badan oo igu kacsanna meeshan jaanis bay igu heleen caawa si xun baa loo karbaashay taariikh xun baa nagu dhacday cid kale inay shan noo dhibtaan jeclaan lahaa laakiin liverpool caawa waxay runtii aad baa naga xumay guuldarada liverpool naga soo gaadhay waan aad u ficiltanno kooxdeeda xoogaa waxa weye caawa waxaan qirayaa si fiican loo karbaashay karaamadan laga qaaday laakiin waxaan rajaynaa soo noqon doono wax iska soo bedeli doono dee cid kastoo caawa runtii aan reer manchester dee igu ogaaye dee luuqa iga soo wada wacayna warwarana ka badiya baan leeyahay telefoonka luuqa iga daaya waan aqbalay nin laga badiyo ugumaan horreynay siciid gadhigidhi baa ugu horreeya bartan siciid jaamac balkan isna bartan iga lahaa ma luuqa baa kusoo dhowmatay waana laka badiyay laakiin waan soo noqon doonaa insha allahu real kugu socdaa intaasaan kusoo gabagaban doonaa aniguna baan qaaday maxamedow real madrid oo de classicadii rag dirtay
iyo shalay oo aan 7 ku badiyay wallahi horta Chelsea cagaweyn runtii waxa weeye Champions korna way haysataa haddana ma tala xuma bal insha Allah waxaan rajaynaynaa inaanu bal gabagabada horyaalkan iska waraysan doonaa xaaladaha balanka wax ku dambeeyaan inaanu bartaa ku sii fadhiyi doono iyo inaanu fadhi ka soo kici doono sida xaal noqon doono laakiin Real Madrid aad baan ugu hambaleynayaa classicada in kooxda Barcelona taayirka marisay runtii oo anigu aad u nacbay aadna u jecel guuldarrada Barcelona marka xoogaa Manchester guuldarrada gaadhay caawa xoogaa waxaan ku yara qabowsaday 30% inkastoo aanay kafeynin guuldarrada Barcelona gaadhay daawada aad baan idin salaamayna Khadra Xasan Caash ma laha baan ku salaamayaa walaal qiimo wanaagteeda kale noloshii iyo udub dhaxaadkii reerkayga qayb weyn ka ahayd aad baan idin salaamayna tan iyo barnaamijka xigeentan ku kulmi doona waxaan idinka tegaynaa rashida isku duuban assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dhammaantiin waa idin jecelahay aad